Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guys, welcome back to Sodabada the Abdis, another episode. Khalid, Captain G, Maz, Yanigo Abdullah. Today we have a special guest. Even though guest u yahay laakiin Soomaalida nin ku cusub ma aha mise nin oo barasho u baahan ma aha. Walaalkeena Mahad oo podcaster Wayne, one of the best podcast oo hadda Soomaali markay noqoto ku dhex jiro baan maanta ku casuumnay the Abdis. oo ku mahadsantahay bro. Mahad is not only a podcaster, he's inspiration, educating a lot of people. culture ku wax weyn buu ka hayaa. Mahad soo dhawo brother Abdis, ku soo dhawo. culture-ka dhaqanka laga wadaa cidaan garanaynin aad iyo aad u maasanta saaxiib dhammaantiin waa maasantihiin rag akhyaar ah oo team ah oo hal wax wada sameynaya wax aad u qurux badan weeye meeshan kaliya ka bilaabay inuu team baa ku bilowday. That's beautiful. aad u maasanta Abdi. Thank you. fidgaray teamkiina dhammaantiin. Thank you brother, thank you. Maanta waxaan Mahad aan u casuumnay is to go beyond the podcast and podcastiga gadaashiisa because Mahad qof walbeeto ani ahaantaysiiba waxaan u aqaanaa kaliya the podcast guy, and we want to know more about the challenges, the personality, maxaa la dhihi jira wax walbo behind the mic. Ma fahantay? So who is Mahad behind the mic? Aad dhihi kartaa maxaad nagu saacidin kartaa something that we know, not only Mahad the podcaster but Mahad the person, qofka Mahad la dhaho. aad u maasan tahay runtii su'aal yara adag weeye because badanaa marka lagu yiraahdo qofkee tahay waxa kaliya ka hadli kara waxa weeye basrifkiisa iyo wanaagiisa. sax dadka baa ku sheegi kara qof iska furfuran baa ahay dhalinyaro baa ahay iska furfuran dabeecadaha bini'aadamku leeyihiin le mar xanaaqa mar faraxsan mar iska serious iska shaqooyinkii marxaladaha ay ku xiran tahay. wiilka mayga ka dambeeya waa dhalinyaro jecel inuu discipline ahaado always jecel dadka asxaabtiisa inuu sida ugu wanaagsan ula dhaqmo ixtiraamka intii ugu wanaagsaneyd dadka ixtiraama jecel inuu mar walba wax barto always inuu waxbarashadiisa hore u qaado. waxa aan ku jira inaan isku dayo like habeen walba inaan isku dayo inaan bal hal wax ka ogaado podcast sida u shaqeeyo kaamirada u baahanahay lightka u baahanahay microphone-ka u baahanahay aan dan raadiyo waxyaabo aan ahayn baashina kale iyo waxyaabo aan ahayn podcast-ga inaan waqti geliyo inaan barto. marka ninka podcast-ga ka dambeeya waa dhalinyaro iska dalxiisa mar walba iska socda iska lugeeya asxaabtiisa waqti la qaata waqtiga uu freega yahay laakiin de hadda waayahan waxaa batay mashquuliyayaasha waxa la yiraahdo adoo shaqo ku taalo inaad asxaabtaada la fariisatay iyadu waa lazinimo laakiin markaad free tahay inaad saaxiibada waqti la qaadatay iyadu waa waxaad noqonaysaa qof wanaagsan oo saaxiibadiisa waqti la qaadanaya. marka dhalinyaro noocaas weeye masha Allah. midna haddaan kugu sii daro nin communitygiisa jeclaa tahay. absolutely yeah bulshadu dadka wax lagu yahay dee dadka haddaa ka dhex baxayd waa laga dhex baxaya adigana marka dadka wax lagu yahay eraygaas eray sahlan ma aha dadkaaga wax lagu yahay dad badan waxaa jira xoogaa markii isdhahaan malaha in yaro views ah waxbaa haysataan banaanka dagaa jiro is yidhahda yeah I'm the only but you know nothing markii dadkan wax kaa dhigeen baa wax noqotay so ku dhex jirkooda iyo la joogooda qurux ku leedahay sharaf. صح yeah. MashaAllah. Well, it's a pleasure having you once again. Thank you. My question is, what was the main reason you decided to create podcast focused on culture, community, and that kind of story go down? horta markii hore dadku markii Soomaalidu waxa la yiraahdo waa oral society. dadku isla hadlayeen waxba isku sheegayeen bay ahayd. tusaale ahaan dadka hadda Minnesota jooga waxa la helayaa for example we came here 3 years ago. so kaliya ma ahayn dad badan oo dhawaan yimaaday baa jira. berigii hore markii qof wadanka yimaado waxa la dhihi jiray magaalo waxa la soo helay jirta 6 saacadood chicken baa laga shaqeynayaa. ilaa hadda baa sida isku tilmaama qofka yimaada dadku u yimaado waa dad kooban circle kooban weeye eedadiisa adeerkiisa guri degan la soo degay so wax inta yaqaanaan bay u sheegayaan always na success people-ko dadku kuma dhex jiraan sabkay degan yihiin nolol waxay ku nool yihiin ka duwan nolosha dadka caadiga ku nool yihiin waxbayna mashquul ku yihiin they're so busy oo noloshooda waxbay bilgareeyeen business bay busy ku yihiin waxbarashay busy ku yihiin qof kastoo success ahi ku dhex jirka dadka uu ka yaraanaya ma dooran duruufta u doortay shaqo mashquul ku yahay makhaayad ma iska fadhiyi karo so ani waxyaaba ugu muhiimsan waxa ka mid ahaa those success people inaan qaab dadkan kale ay uga faa'iideystaan sameeyo
okay markaan dhakhtar keeno for example dhakhtar baa mar casuunay markaan dhakhtar keeno dhakhtarka aan wareysto dhakhtarka waxaa ka faa'iideysanaya 20 dhalinyaro ay Amazon ka shaqeysa wuxuu ka sheekeynaya soo dhakhtarku noqdo ka sheekeynaya soma dhakhtarkan iyo wiilkan Amazon ka shaqeeya isma heleen صح صح waqti bay qaadan lahayd inay is arkaan mana is arkayaanba ninkan wuu heli karaa laakiin waxaan isku daynay yani dadka Soomaalida ah ee guuleystay ee sheekooyinka macnaha leh ee nolosha quruxda badan ku nool ee in somehow success nolosha ka sameeyay barasho ha noqoto dhaqaalaha ha noqoto ganacsi ha noqoto yani any kind of success kuwa sameeyay inaan horkeeno kuwan kale si ay ugu daydaan aan also inaan bulshada wacyi gelino marka 10 qof keentid oo expert ku ah sida ilmaha loo barbaariyo waalidiin badan baa ka faa'iideysanaya adduun waxaan joognaa barbaarinta iskuul loo aado training loo qaato dadkeenana waa ogtahay cid barata ma jirto soo aan waxaan isku daynaa media baahida ugu weyn waxay ka imaataa marka media meesha ka shaqeynaya research ku sameeyay markaas media wuxuu ka iska media events ka shaqeeya dhacdo qof baa imaaday qof baa tagay xaflad baa dhacday kana dhacday wax shay ka sameeyay ma jirin success people interview laga qaado in dadka kale ay dhageystaan ma jirin so baahida anaga naga maata personally sideen anigu personally yaa u baahan in la saaxiibo sidee u guuleystaa so anigu marka access ka helay dadka inaan keeno boqolaal dhalinyaro asxaab ah ayagu ka faa'iideysanay so gaabkaas u dhaxeeyay dadkan maxaa la yiraahdaa guuleystay iyo dadkan guusha raadinaya in anagu noqono sukeena bridge ina u noqono labada community baahida ugu weyn xaggaas ka imaatay markii ugu horeysay hadana mid kale tan hata damid ku daro a lot of times hata waxa dhacdo in sheekadeena hata dad kale inoo sheegaan Soomaaliya markii la waayo meel oo main media ah sidii podcast oo Soomaali ee leedahay mise community-ga uu leeyahay dadkii kale naga faa'iideysanay dadka kale markay sheekadaada sheegayaanna waxay ma aadayaan saa hada sheegaysid dadka loo baahan yahay dadka loo baahneen ay aadayaan oo negative ka mise drama ka mise wixii maanta oo community-gan views lagaga heli karo laga raadinaya marka saa sheegto waa run haddii qofkii uu sameeyo dadna waa mashquulsan yihiin dadna waa dalkan waliba aan ku noolnahay dadkoo dhan waa la wada ordaya haddii la helo qof hataa successka kaliya ma aha qof hataa ka hadli kara dalkan suu ku imaaday iyo suu noloshan ku toosiyay kaliya micno weyn leh because I remember ani back in the days markii aan soo koreyno soo yar weynaanaynay ma jirin meel maanta ama hooyada ama walaalka ama aabaha le way qof maanta aad u tagi kartid aad dhigi kartid ta iskuulaha kale hadda qof aad dhigi kartid niyo san inta u mara in say xaq u mara laakiin hadduu qof macallin intuu podcast soo fadhiisto uga sheekeeyo sida iskuulada loo maro iyo sida wax loo maro dhalinyarada badan aad next generation hata caawinaysa so it's a good point that you said and also to add in that usually dadka wax barteen inay banaanka soo fadhiistaan oo adag tahay without dad inay raadiyaan soo keenaan oo kale shayga soo kale dadka wax barteen oo kale ina soo wadid ma ogeey in soo fadhiistaan way ku adkaanay because dadku wax bari lahaa dad in wax bartaan rabaan ma laha right marka wax barinaysid ama cilmi ina barata arabto waxay noqon in aad aaraadisid sa u soo heshid yeah one of the points uu ka hadla xataa waxa raacsan like Soomaalida meesha degnabo like for example ana saddexdan Kentucky ka imaanay we only had two options either in a track with it or in a dadka oo ciyalka wax isticmaal ama groupka saraacdid why because bay ada kuna laha laba saxaabanood noo tilmaamaysan adima door waa lagu dooraha dad waxay ku xiranaa dhaxgaloosaa talada ugu horeysa lagu sameeyay waxa weeye sida barnaamijka ku heli lahayd baa laga shaqeynaya adoo rabinba marka wadanka imaanay dadkii familka Amazon ma noo apply garay war ka taago may sababta Amazon bay yaqaanaan deero noosh company kale to success ma garanayaan Amazon bay yaqaanaan kaasna ma affect garan kartaa kulata dadka cusub hadda imaanayaan oo kale of course firi ninka hadda wuxuu dhahay narrative horta sheegay narrative-ka waa future-kaaga ayadu waa different laakiin dadka halka markay imaadaan adiga marka wax ugu weyn u baahan tahay waxa in lagu jiheeyo halka mar qof kastana waa u nugushahay and then qofka halka mar ku dhahay laakiin waa inaad fiirisaa tiraahdaa okay maxaa aad u martay bal maxaa meesha martay ka keentay sax so taama dhihi kartid because baahi baa ku haysa adiga iyo inaad la shaqaysaa rabtaa lacag baa rabtaa ma garad so dadkii talada saxda ku siin lahaana runtii ma helaysid inay xasidin yihiin ma aha laakiin danahooda mashquul ku yihiin hadaa waxaad mashquul ku haysa ay jiraan makhaayad ma soo fariisanaysid ma ogtahay sax cid waqti aad tala ku siismaysid dhakhaatiirta markaan wareysanayno 3 weeks 4 weeks ka hor balanta ka qabsanaa waxa iyadoo ay ku adag tahay ku imaanaya hadana kuma ciyaari karto waqtigiisa waa inaad halkiisa
on time ku tagtaa Haddaa Because 15 minutes- qofka waqtigiisa value buu u leeyahay halkaas $500 uu shaqayn lahaa waa laga yaabaa moogta so talo eedada baad ku soo degaysaa way ku hagar baxaysaa eedda macna Amazon Friday da la soo geliyaa bay ku leedahay mid aad family tihiin oo maqaayad fadhiya ku qabanaya taraag kula raadinaya barmidkiisa ninkaasi wuxuu ku sameeyay wixii ugu fiicnaa taariikh kuma xumayn Yeah, one of the best. ma garata shaqo Exactly. ku raadiyay wuu ku hagar baxay laakiin dhinaca kadan haalaan buu ka tuuray qof kale success dala fariisan la wax ku dhiilaa wareede u yara kale taraagan iyo waxaano baarta temjarna iska gal school aad kan samee 2 sano 3 sano kadib waxa asar kale adigoo meel ka soo baxda waxaan leedahay environmentiga aad ku dhex jirtid ama environmentiga aad dhex gashay wixii xataa predict gareeni kartaa future-kaaga meesha wadada jeexani lahayd of course hadda losers la fariisatay you become loser the end hadda dad aan shaqaysan la fariisatay caajislow yaala caajislow baa iska noqonaysaa environmentiga ma aha hal qof oo saaxiib la noqoto waa noloshaada dhan bedelaya meel wanaagsan kuu jiidaya kulligeen environment wuxuu noo saameynaya lambar 1 wadankaana saameynaya Yes. wadanku dee wadan gebigiisa waxaa weeye dhiirigelin ah oo dadku dhan busy yihiin so dadkaa busy yihiin laakiin waxaa kaa soo jiidaya hal qof oo saaxiib oo xun ama community yar oo han aan lahayn hadday ku jiitaan waa raacaysaa dee Yeah, they can dictate your future. dadka meelahan waxay dhahaan ma garani show me your friends and I'll show you your future macnaha haddii aan saaxiibada arko mustaqbalkaada waan garanaya it's the same way I had the day say if you let a blind person lead you at the end of the day hogaamooda waa isla gelaysin camalaha that blind person asaga isma laha maaragtay ay meeshan qofkan hogan geli intentional kama aha kama aha of course lakini way dhacaysaa sababtoo waxa ma arko like But I think situation ka anaka nahaysta kaasoo kale waa midda kaleetana I think generational gap aa jiro oo ah dadkii hore markay imaan jireen waxay u imaan jireen iyo hadda way kala tahay because dadkii horeeto information ma jirin qofka markuu imaanayo qof Mareykan hataa maqlin oo weligiis arkina laga yaabo inuu Mareykan imaado hadda like with social media qof oo dalkii jooga baabirdhig gareen karo nolosha Mareykan see tahay wax la sameeyo qofkii wax bartay qofkii taraak aaday qofkii warehouse ka shaqeeyo differencegiisa hataa meeshuu kasii dareemi karaa so by the time inta imaanaysid cause dhalinyaro badan aqaana oo gadaashan dambe imaaday well prepared way usii diyaarsan yihiin noloshii Mareykanka qof baa wuxuu og yahay majorkuu sii baran lahaa hataa wuu og yahay inkastoo anaka aan yareen laakiin dadkii hore hataa 20skooda mise 30skooda ku jira markay intii imaan jireen qofka suu u socdo waxaa waaye wuxuu ku leeyahay hilib baan maqleen laga shaqeeyo saa sheegta mise chicken baan maqleen laga shaqeeyo mise shaqaan rabaa so differencega I think is a generational gap ka waaye oo social media is a big influence on that oo maxaa la dhihi jiray sabab weyn ay ku leedahay but dadka hadda imaaday well prepared waa qof aad arkaysaa 1 sano joogo oo business furtay dukaan furtay qof meeshan 30 sano joogo noloshii weli raadinayo differencegana waxa waaye qofkan wuu u diyaarsanaa meeshan wuu isku soo diyaariyay lacag ahaan dad jira marka inta imaanayaan lacag wato awal qof lacag wata inta ma imaan jirin qaxooti waa qofka markuu wata inta dad hadda inta jiro at least 10k wata marka imaanaya ama qof aad jiro markuu imaado ku dhaay niyo taraagan rab inaan soo qaato lacag yar baan haystaa ma fahamtay so differencega hata I think oo dadkii hadda iyo dadkii hore u dhaxeeyo that's why dadkii hore marka aad la sheekeysatid ay kaaga bilaawaan Amazon iyo kan because asagii asaas ku soo maray noloshii ma oga marka inay isbedeshay sheekadii oo hadda ay tahay qofkan is well informed well maxaa la dhihi jira aware noloshii oo Mareykanka uu og yahay wuu la socdaa wuxuuna leeyahay dee intaanoo qof haddii iga soo horeysay taraak soo waday oo waxba ay ka keenin maxaa ani meeshaan ugu sii wadaa wax kale aan qabsanaa so opportunity-ga taa waa different haddii wixii kuu dooran araaciweed waxa la dhihi warniyo ma shaqaystaa tahay niyo horta mi halkan hadda aniga for example Minnesota I did not come accidentally migrant I choose it markaan soo socday waxaan xasuustaa asxaab badan baan nahay so nin waxaa jira dadkeena in somehow qab jaahilnimo aba iska jira asxaab badan markaan nahay nin aniga waxaan idhaahdaa marka I'm going to Minnesota because Minnesota dan badan baa ka leeyahay I have some kind of business idea waxbaa ka sameynaya Soomaalida arkaan ka dhex shaqeeyo okay qof wuxuu ku leeyahay nin aniga I'm not going to Minnesota oh hey I'm going to Texas okay good why no Soomaalidaas rabaa inaan Soomaalida aan dhex galo mar okay brother hey Texas baa la aadaya 3 bilood kadib Minnesota waxa lagu imaanaya because state Mareykan la iska soo gala ma jiro Arabtu state bay u socotay Mexicaanku state bay u socdaan qof Mareykan gobol iska soo aadama ma jiro doorasho lagu imaadaa dad baa uga sii horeeya
carabtu isteediya ku badan tahay waa naqaanaa mexicaanku isteediya gaar ay ku badan yihiin baa jirta isteediya madowga ku badan yihiin baa jirta wadanka meel iska soo gala iska soo laakiin Soomaalida halkan timaado oo qof kasta Soomaaliya yiraahdo I'm going to Minnesota waa doorashada ugu fiican baa leeyahay because sida la isku taageero meeshan iyo dadku tada lagu siinayo iyo mararka qaar haddii cidda saxda ah raadsatay laakiin direction fiican baa lagu siinayaa ya anaga dad oo qaar waxaa jiro anaga kale choice maan lahayn marka la keenayo kale right like dad qaar waxaa jiro saad sheegtay oo kale markii soo socdeen ama jidka soo marayeen oo kale choice lahayn oo ah hey waxa u socdaa meel hebel laakiin Minnesota ama Texas noqdaan bal dad qaar waxaa jiro anaga kale qaxooto ku imaaday with no choice meesha lagu tuuray un baa tagay so su'aasha kale igu lead garan doonto oo Soomaaliyeed waxa waaye ma hado markaa bilaabaysay podcastgan do you feel in Soomaalida ku taageerayaan or waxay noqotay in adiga is so started as to sit I know there is a high chance or 100% waxaa ka aragtay gap to you know community in ka dhex aragtay and do you feel yourself in associated ama so bandhigtid or waxaa dareentay in Soomaalida ku caawiyaan or ama waxaa dareentay ina caawimad badan ka heleen ilaa marka soo bandhigtay kadib adduunka wax ka qurux badnaan lahaa ma jiri lahayn marka cusubna in la taageeri lahaa absolutely laakiin da macquul ma ah qof kasta cusub lama taageeri karo runtii صح because boqolaal qof baa tanaasuleysa so qof kasta bilaab hadii la taageero imisa qof baa tanaasushay sanad kasta waxaa podcast bilowda intaas qof kuna qof isla sanadka dhamaadkiisa waxa ka 10% waxaan dhamaan baa sii wada waxa la yiraahdaa year couple 100,000 oo business baa la bilaabaa waxa ka success gareeya 5 to 10% so dadku markay arkaan qof waxa istaa wax loogu daraa maqasho صح markay hasal gareynaysid oo rafaadid oo naftu ka soo baxdo baa dadku ku dhahayaan haye taageero kale ma ahayd Soomaalida si la isku taageeraysan la isku taageerin baa jirta marka bilaabaysa laakiin cidna kuma taageerayso waa inaad adigu is taageertaa first hasalkaaga iyo ragnimadaada iyo xiniyahaaga iyo xoogaaga iyo dagaalkaaga iyo qofnimadaada iyo jacayl waxa ku sameynaysidba in adigu xoogaaga ku soo baxid ma ahayd صح cid ku dhahaysa ma hadda bilowday ha gacanta ku dhiis ku soo qabanaysa ma jirto wali marka hore lagu madaalaysanaya waxaan hadda joojinayaa xagee gaarsiin karaayo dadku inay ku taageeraan iska dhaaf way ku qoorsanayaan waliba adoo bilaawana negative thoughts madax lagu sii gelinay you know waxa ma iska dhaaftido inta ugu badan waxa weeye waxa ma iska dhaaftido maxaa ku falasaayo waxaan maxaa la dhahay Mareykan baa imaatay sidee podcast iyo microphone iyo waxaas wali u daba fadhidaayo absolutely dadka Mareykanka podcast imisa milyan baa laga sameeyaa wadanka badan صح صح wadankii baa lagala soo hadlaya hooyo maxaa kugu dhacay microphone baa daba kor fariisatay shaqaale ugu soo taraagi iyo chickenki iyo eedada iska dhaaf dadka Mareykanka eedooyinka waa ku soo wacay dhahay commentiyada qaar waxay ku soo qoreen wareedhe waa maxay microphone-ada iyo kaamirada wali wadatay Mareykan ma tagtay marka waxaas oo dhan hada u fiirsta ana taa wixii maalmi u la soo qori la u fiirsan laaba brother ismeena baraneen ma garad صح 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 shaqo kala gali lahaa laakiin cidna isu taageerayso markaas soo kacay waa lagu taageerayaa laakiin inta bilaabis inna kuma taageerayso cabashooyinka ugu badan ma u malaysaa dhalinyaro badan oo xataa visionkooda ama dreamkooda ama waxay rabeen inay qabtaan dad badan oo familigooda ee ka hakiyeen ama waddo kale uga bixiyeen cabsi dadka familigaas information badan helin so bilaawgii marka inoo sheegaysay dad waxaa jiro oo adduunyadooda iyo noloshooda wax qabsado wada jeexday oo Soomaali ah oo qof walba kamid yahay dadka waxay ku jeexdeen indha adeeg iyo gooni socod ee ay ka wadadooda jeexdeen Soomahan dad badanna waxa laga yaabaa inay ku dhaheen war halka ma gaaraysid wiligeen waxa ana kama sameenin ruumam qaarkooda ama ganacsi ahaado ama iskuul ahaado nolosha dadka mar hadiiba meel ay gaartid waa wada cidla bridge kaligiis la maro oo cabsi badan oo dad badan ku dhahayaan waa lagu jajabay meel kama gaaraysid waxaa u malaynaysaa dhalinyaro yaryariis aan haddana daawanayo ama Afrika joogo oo ka fikiraya inay like podcast sameeyaan ama wax walba ganacsi ahaado sameeyaan maxaa kula talin lahayd maxaa dhileed wadda oo cidla waay waddadaas dhibaatada kala kulmi karaan iyo waddada jeexan ilaayeen niyo hor ana waxa dhihi lahaa waxaa jeceshahay samee adduunku wax ka qorxdan waxaa jeceshahay inaad samaysid waxaa jeceshahay inna kulama jeclaanayso hooyada aabbaha walaalaha kulama jeclaanaya adaa jecel dareenka aduu kuga abuuran yahay soo shaygaa jeceshahay de wixii akhlaaq leh baan sheegayaa wixii wanaagsan ilama ah qofna inuu wax xun jeclaanayo wixii wanaagsan research ku samee baaritaan ku samee haddii wax aad ku noolaan kartid naftaada ku anfacaya ay yihiin qof bini aadan ha kala tashanin dadku
fiiri markaa guuleysanaysid jidka guusha markaa saaran tahay bini aadamka kugu hareersan qof kugu farxaya ma jiro qof kugu farxaya markaa guuleysatid in lagu sacbiyo waa laga yaabaa markaa wadada haysid qof kasta dadka ugu badan way kula yaabayaan weliba laakiin markaa guuleysatid baa lagu sacbinayaa aniga waxaan dhihi karaa hooyadaa qof aan ahayn oo guushaada markaad wadid kugu faanaysa u dhahaysa maasha allah I'm so proud of you ma jiro so saa haddii baa noloshu ay tahay oo qof kasta tiisa aad haysato waxaad jeceshahay inaad samaysid sida aad jeceshahayna u samaysid waqtiga ugu habboonna gelisid wax ka wanaagsan ma jirto wax kastaba waa hasal noloshu yani nolosha sagxadda laga bilaabaa guriga markii la dhisiyo lagama bilaabo jinkada hoos baa laga soo bilaabaa jinkada kaligeed ma istaagi lahayn sooma so meesha aad rabtid way fog tahay laakiin waxay u baahan tahay dhabar adeyg waxay u baahan tahay raganimo haddaad rag tahay haddaad naag tahayna naagnimo u baahan tahay yani dadaal iyo nafhur iyo waxay kaa rabtaa inaad tidhaahdid yaa halkaa inaa imaado ma aaminaynin waxay u baahan tahay yani dadaalkeeday u baahan tahay so wax kastood samaynaysid xanjo haddaad samaynaysid xanjadaasi waxay u baahan tahay waqti inaad gelisid dadka qaari meel loogu talagalay in 100% energy la geliyo 5% intay geliyaan mikaniya jabayaan ayagoon yacni talaabo ayagoon qaadin qofkii wuxuu leeyahay niyo maya Soomaalida maxaa 200 oo business u tijaabinay Minnesota waxaa jooga Soomaali dhowr dhaashoon la bilaabay delivery oo cuntada gawaarida qaadaysa odaygan wareystay mar odaygan iskale Somali museum odayga maamula 2006 fiyaa meelahaas dhowr dhaash 15 baa la bilaabay soo sax wuxuu sameyn jiray al delivery kamil la dhaho al delivery taqana waa dhowr dhaasho kale waa gaari baa wacaysa waxa lagu soo dafayaa makhaayadaha Soomaalida cuntada laga soo qaadaya ajnabi markuu fikirin xilliga waxaas qof inta soo gadanay hadda taana ma jiro dhowr dhaash baa soo baxay maalta million business ah oo dunida laga yaqaan but difference-ga oo waxaan u maleynayaa ee tahay waxay tahay especially hadda markuu podcasting oo kale uu noqdo sidii hadda social media oo kale banooniga oo kale waxyaalo waxaa jiro community-geena xataa haddaad isku dayeysid u ekaanayo already wuxuu leeyahay stigma uu leeyahay already wuxuu leeyahay dadkii ilaa ay wixii wax aad ka keentid ma oye uma arkayaan inay wax serious tahay haddaad dhahdid aniga waxaan rabaa inaan social media horumar ka gaaro mise podcasting ha noqdo mise content creating ha noqdo qof walba wuxuu u fikirayaa especially generationka naga weyn sida hooyayaasheen aabayaasheen adeerayaasheen wuxuu u fikirayaa ma haddaad tiktok soo fadhiisan rabtaa mise ma haddaad because already wixii dad baa dhisuqeeya right ma arkaan marka benefitka mana jiro qof maanta intuu podcast sameeyey oo la dhihi karo wallahi qofkaas baa meeshaas ka gaaray hadduu jirana waxaa la leeyahay qofkaas dadkaas buu u tagay ma noqon kartid qofkaas oo kale adiga so waxaan kuu fudud fiiri hadda haddii I think haddaad aadid anaga iskuula aadaa America markaas imaaday jaamacad baan aadaa I think most of the people way ku taageerayaan oo jaamacad waryarkii wax buu baranayaa la leeyahay laakiin haddaad aadid podcastan samaynayaa qof walba wuxuu leeyahay saa sheegtay war maygan aad bursanaysid muxuu yahay war Mareykan baa tagtay orodoo shaqaysanayo Mareykan baa joogtaa mic baa daba socotaa so I think the difference-ga wuxuu yahay supportka hataa dadka hadday ku support gareynayaan meesha aad gelaysid meel ay uga jeedaan sharaf ayaga waxay u aqaanaan ma aha sharaf until ay sharafta imaado maanta Moon Media waa heer sare maraysa qof walbo maanta waco oo dhaho war Moon Media waa magac maanta hergalay waay oo la leeyahay war Minnesota waxay u tahay maxaa la dhihi jiray a whole maxaa la dhahaa mainstream media u tahay voice u tahay la leeyahay laakiin marka ku bilaabaysay visionkaas dadka may u jeedin waxay isdhahayn oo ninkan odayga meeshan buu soo fadhiistay mic buu soo qaata waqtigan wax kale buu ku qaban lahaa laakiin maanta markay hergashay qof walba wuxuu leeyahay wallahi billahi ninkaas bad ma u jeedaan wixii adiga soo sacrifice karaysay waxa soo sameysay example-ka kaloo supportka wuxuu yahay I remember markaan podcastigan koodi bilaabeynay way soo wacday waxay dhahday baraada waxa ay sameynaysid waa wax fiican waxa sameynaysid waan ka helay adiga iyo dhalinyarada saxaabtaada maasha Allah keep going aniga wax weyn ay yahay moogaad phone call-kaas caadi inay kula tahay laakiin wax weyn ay yahay for someone that I look up to qof aan fiirinay aan dhahay wallahi haddii aan rabo inaan meeshaas inaan gaaraa rabaa inuu isoo waco oo dhaho anigoo weliba hataa wixii bilaaban hataa I'm not even close to that even meeshaas inuu isoo waco dhaho keep going wax weyn waay deal weyn waay waxay adi ahaanta waxay ku siinaysaa wax saxan inaad samaynaysid so supportka hataa dhinacaas uu noqon karaayo qof ay isdhehaysay meeshaas ku dhex jiray oo arrintaas sameynaya hadduu uu isku dayo inuu dadkii uu dhaho uniya waxa aad samaynaysa wax fiican waaye
dadkan waxyaalo badan way imaanayaan caqabooyin badan challenges badan way imaanayaan but messageka has to stay muhiimadda ugu weynna waa consistency marka aniga bilaabaysaan baan ku bilaabay but maanta meeshaan jooga ma soo gaari lahayn haddaan videoyaashaan samayn lahayn so keep going marka I think supportka wuxuu yahay especially markay noqoto podcasting communitygeena we way behind baan nahay waa ka dambeynaa oo qofkii markii koodiiba mic ay soo qaadatid everybody wuxuu u maleeyaa ma haddaa tiktok soo fariisan rabtaa ma haddaa social media ka aytami rabtaa so already ma aha qofkan lama dhahay war qofkan communitygu waxaan wax ugu qaban rabaa mise waxaa laga yaabaa inuu noloshiisi iyo noloshii communityga mise dadkii noloshooda uu ku bedelo so already waa wax different sameynaysaa waa oo loogu talagalin dadkii mise communitygeena ay success u arkin and I think that's why a lot of people supportka ay ugu daraan qofa arkaysa ku dhaawar aniga Soomaalida ima support garayso podcastigayga sans and I'm like Soomaalida maybe ku support garaynaysaa haddii arkaan adigi inaa wixii ilan at the end of the day podcast waxa ugu weyn oo lagu support garayn karo in lagu daawan karo waay waxa sheegaysa in wax soo jeedin karo waay qofkan ku daawanayo inuu wax ka helayo waay video waxba sameynaynin oo waxa ku soo darin hada qofkii u soo dhigto daawan waayo ma asaa eedle mise adaa eedle soomana soo qofka waa inaad hataa wixii aad sameynaysaa sheegtay ma dhihi kartid shaqaan sameynayaan 5% ka sameynaa ma dhihi kartid it has to be 100% inaa wixii aad gelisid waay so it comes from both ways support this is tusaale taamil qaadasho weyn leh I know exactly what you're talking about markaad koo bilaabaysid nobody will support you especially dadka oo kugu dhow ee maartay isleedahay waa saaxiibada waa waalidka waa reerkiina those type of people I know waxaan u taagnaa wiil wuxuu jeclaa gaming buu jeclaa zaid and then he was trying to be kuwan digital games oo maartay ciyaaraan buu rabay inuu ku darsamo so marka there he didn't go to college intuu aadi lahaa wuxuu dhahay I'm focus on this like 100% energy kana siina amala so a lot of every day he will stream amala like 5 to 6 hours, sometimes 12 to 10 hours. Marka, his family, dadkan waa taqaana hadee Soomaaliya hadayna hayn ajaanibta, if your kid is not doing what they're supposed to do, waxay sameeyaan, they kick out the kid, disown bay ku sameeyaan. So marka, the kid, he got disowned, amala guriga laga bixiyo la soo saaray. And a lot buu haystay, all the equipment, everything, xaafada guriga hooyadiis waa loo soo gaday, ma aqaan waa la wada qaatay. And then his siblings are la siiyey. So marka wuxuu soo istaagay kaligiis inuu saaxiibadiis couch to couch ku sameeyo amala meesh inuu joogo game-ku iyo wuxuu ciyaarayay ma garanay he will go to the public libraries amala sifu uu maarta u ciyaaray game-ka u stream gareeya halkaas ma hadlaayo shib waaye because you can't really say anything haddii public tahay uu baxa uu soo sameynaa uu upload gareynaa and then he will maxaa la jirayay uu ka baxaa he kept doing that for at least 6 months couch to couch. Sometimes he will not find a place. He will go to gas stations to shower. And then he ended up making a name for himself. There was a clip of him that went viral, and then a lot of people started to follow him. And then he eventually became that's actually generating revenue from the stream key. And then first thing he did was Guru Kreste Melbudege. And then he continued doing non-stop amala. Husamay at least sometimes one so ka'a shaqadeeda aada one so laabana. And then I'll still see him online with stream garanaya. And then a year later, magaalada uu ka guuro he bought a whole mansion kiligis. He started making big money amala boqol kun ku dhaw bishi. And if he continued doing wuxuu maartay waalidkiis dhahayeen he wouldn't be in that position he is. Maanta he's multi-millionaire. Shalayto maxaa la jiray markii uu couchka ku fadhiyay ismuu dhahaynin maxaa la jiray no one believed he was going to be meeshuu taagan yahay hadduu maxaa la jiray aaminay dadkan kale waxay ka dhaadhiciyeen oo maxaa la jiray uu give up gareeyay on his dream. But that shows he was maxaa la jiray he knew what he was doing and he was dedicated enough to stick to his maxaa la jiray go amala. So maybe that's what success is. Hadda koolka ii sheegayso kaleeto aniga markaan bilaabaya dhinaca gare marka adigu soo wacayo baahi anigu marka aan u baahnaa bay ahayd in somehow dadka Soomaalidu ka midka yihiin content creatorska in somehow ama wariyaasha ama podcasterska ama waxay sameynayaan ka siman waxaas dhahaysaa
maxaa la isku haystaa isla samuut audience dadkan Soomaalidu TikTok bay isaga jirtaa adna waa ku daawan kartaa adna waa daawan kartaa qof kalena way daawan kartaa absolutely صح adigu meel kugu xirnaanayaan so broadcaster isadu yimaado audience ay kama tagayaan way joogayaan Of course. adigu quality-gaaga waxa si ilaali aniga marka dadka hadda saaxiibada media ku jira cid qof intuu waxa uu yiraahdo hey no you doing good hore u sii wad ma jirto muhiim bay markaan bilaabay inta in la igu dhaho wallahi waliba qof xirfada ku jira uu igu dhaho ma u malayn lahayd haddii wax xun ay sheegi lahayd ama like qabiil iyo hadalka inaa heli lahayd hadalla noocaas oo kale ah oo ah hey waa ku taageerana camal hadda like wax xun wadi lahayd niyo aniga may ilama ah negative entertainment. hadii lagu Yeah. dhaha xitaa firi dhiirigelinta laba kala ah sax haddii anigu hadda aan ku dhiirigeliyo anigoo nin professional oo shaqaysto oo magac leh ama dhaqaale haysta iyo haddii aan ku dhiirigeliyo anigoo qaaqla oo tuug oo iimaan laawa ah kee macna kuu sameynaysa markaa Habeenii maalin qaaqla ku kartaa. dhiirigelinaya motivation waxaa ka helaysaa tuug kale tuug kalaa ku dhahay waa la dheeraa tahay niyo adiga niyo Absolutely. hore isagoo ku leeyahay laakiin dadkeena hal dhibaataa jirta firi anaga personally aniga iyo teamkayga maana raadinaynin magac maana raadinaynin magac waa very easy hadda inteenanba hal hadal haddaan dhaho muuqaalkan wax laga yaabo Soomaaliya wada daawato hal hadal ba hadda ku tuuri karaa oo aan la iga filanaynin inaan dhaho halka hadal wax laga yaabo qofka Soomaaliya inuu gaaro uu waali ah laakiin waa waali ah oo kala firi laakiin magaca aan raadinayno ma waxa weeye ma hal lagu bartaa raadinaysaa Amiin, mise hadda waxaa waxaa raadinaysaa si macno lah lagu barto laba kale Absolutely, yihiin. sax. Ah, wallah. in lagu barto waa very easy Yeah. like wax lagu baranayaa macno leh Sax. inaad magac qurux badan dhistid baa waqti u baahan inaad magac wanaagsan samaysid oo legacy ah baa weeye midka u baahan energy iyo tamar iyo akhlaaqiyaad iyo maxaa la yidhahdaa laakiin inta qof hadda caano la yaqaano dadka caaya value naftooda uma laha iyaguna value ma laha dadka meelaha ku arkayana hoostay ka leeyihiin ruuxa meesha maxaa keenay qashinka haddana middaa su-aasha aan ku daro ka dhawaajiso very muhiim ee Soomaalida u baxsannahay dadna waa entertainment oo negative leh wadaan oo social media ku jiro hadda inan oo TikTok ayaan ku arkay personally ayada uma attack gareenay ba FYP gayga waxay hor imaada ayadoo baalki tunji ku kaadinayso style wala la Don't mention her name. I mean magaceeda waa umada dhawaa wala arkaan like the idea ga hadda waxaa ka wadaa subconscious kayga waxaa ma arkaa qofkaa jaa boxkaas uu geliyo oo waan ogahay wixii maalinkaa kugu arka kugu bartay waana caan beentaadana ma ahana caanimo oo easy oo qof walba wada ogaanayo waaye So that is very important because dadka xataa meesha daawanayo qofkaa entertainment ahaanay commentiga haddaa fiirista live ma aragtay asay sii canayn ay dhale kaas caay kaa caay so waxaa leedahay waa meeshii dhan markaa wada fiirist waa area dhan oo boosaneer oo xaarka la wada qooshanay adigu maxaa qortay caan weeta ya Marre boos ani ma gareys. qorin ani waaba ilaaba waa iska daawanaya so marka ummadaasoo miiran oo la badan yahay na xumaato dad qaarkooda entertainment ayagoo ka raadinayo fahmna way ka raadiyaan waa muhiimadda jirta oo saxda waay right but at the same time communityga Soomaalida markaa u fiirisad attention spank oo dadka bini'aadanka markuu sii yaraanayo hadduu negative-ka ka buuxo communityga dhan visionkooda halkaa un buu jeexani so adoo kale baar kasta haddaa soo fadhiisana ama anaga wax fiican ka hadleen waxaa leeyahay ragga maxay ka hadlooyin because bini'aadankii iyo dadkii lama qabsanin inay informationkaas very insightful inay digestive ku sameeyaan so su-aasheeda kale oo ku weydiin raba ku xoge caqabadaha ugu waaweyn Soomaalida maanta markaa like baar kasta furatay qabatay inspirationka iyo muhiimadaada adiga waxay ahayd warniyo wadana ku cusbahay meel cusub imaaday wadada nolosha iyo future-kayga waxba ku qornaa waygaaga wuu weynaa meel kugu qorneed adeeda personal taa ku tahay dabihii adoo raadinayso waxaa dhahday ummadii oo wadada kortay ama wadada saarneed bal aan la fadhiisto informationkooda iyo waxooda saa uga hela anina wadadaas ugu dhaco dad kale dhalinyaro badanna oo uga faa'iideysanaysa oo ku daawanaya caqabadaha la kulantay inta midiyaha ku jirtay ma caqabado audience-gii insightful dadkan oo waqtigooda muhiimka soo dhuminaya haddana productionka markaa edit gareynaysid iyo waxaa samaynaysid waqti badan ay qaadataa oo sometimes laga yaabaa lacagtaada iyo energy-gaaga iyo teamkaaga dhan gale what is like caqabada ugu weyn leedahay warniyo waxaan informationkan ummadda meesha u dhigayo anina inaa ka faa'iido dadka i daawanayna inay ka faa'iidato community-gaana
oo personally sometimes xataa og tahay in wadada oo fiican oo lagu jaheeyo caqabadaha kala kulanto maxay caqabadaha waxaa weeye horta fiiri waxa the end of you need views dhamaadka waa u baahan tahay Yeah, Because waxaan 1 year haddii 100 qof ay ku daawanayso inaad isku joojisaa fiican moogto adiga maalin walba fiiri waxaan waa runtaa shaqo fiican baa haysaa laakiin shaqada haddaan la daawanaynin baraha shaqo kale iska raadsan moogta waxaan isku wareegin inay ka weynaato ma aha waayada waa inay ahaato fiiri waxa aad samaynaysid marka hore horta hal waxay ku dhiirigelinayaan waa joojin lahaa haddii wixii aanay helin waxay ahayd caqabadaha ugu weyn waxaa dhihi kara waxaa weeye caqabadaha waxaa ka mid ah in lagu barto adigoo wax wanaagsan sheegay in lagu barto waxaa challenge kula jirtaa 200 oo cay ka shaqaysa hadda tusaale ahaan tiktok markuu maskaxda kusoo dhaco niiko cay dagaal rabshad qabyaalad inkaar baa kugu soo dhacaysa laakiin meesha taas laguma talagelin abka cay looma sameyn haddii hadda ay soo gasho tiktok ka waran 200 oo kun oo culimo ah sheekh mustafa hadduu akoon ka samaysta ka hor caawa tiktok oo muxaadaro ku baahiyo ma tartami karaan qofkii caytamayay iyo sheekh mustafa No, they're not. waa laga entertaining. baxayaa okay marka qof kastoo aqoon-yahana dhakhtar professor engineer IT guy cyber security guy hadday userra ka samaystaan soo galaan wax academic ah ka hadlaan wax qurux badan sheegaan dadkii xumaa ayagaa xishoonaya the end waxay leeyihiin so annaga qofkii aqoonta lahaa xoogaa dib buu isku dhigayaa mar walba aqoontu dib bay ku yar dhigaysaa xishood yar baa aqoonta la socda intaa yartaa waxaa ka faa'iidaystay kuwii jaahiliinta ahaa soo fariisteen waa kuwa hadda uu sheegay ama tuunjaha wataan ama balaayo kale ha wataane kuwaasaa soo gelaya dan waxay rabaan bay ka samaynayaan meeshii dan dadkii markii ay meesha isku ballaariyeen oo neeka iyo qashin ka bilaabeenna dadkii waaweynaa waxay leeyihiin annaga iyo kuwaas isku meel ma joogi karna camal isku xishoonayaa qofkii challenge-yada ugu waaweyn waxaa weeye challenge-ga koowaad waxaan effort baa gelinaysaa equipment baa soo iibsanaysaa waxaa laga yaabaa 15 kun $15 inaad qalab kusoo gadatid space inaad renti garaysataa laga yaabaa waraysiga sababta u qaadaysna waa in la daawado waxaan value-ga raadinaysa waxaa weeye views ma raadinaysid laakiin waa in la daawado waxan Yes. waxaan haddaad inta duubtid whatsappka ku dhigaysaa miya may aan barka ku haysanaysaa. mise dhowr qof reerka u diraysaa may inaad dadka tustaa la rabaa dadka haddii daawan waayaan xoogaa waa niga jabasaa Yeah. laakiin wax ugu muhiimsan waxaa weeye waa inay jiraan wax ku riixaya maxaa ku bushgareynaya waay waa inuu jiraa maxaa haddii jiraan wax waay ah podcastyo dhan baa inta sameynay oo qofkii bil raadinaynay oo wixii baa 400 oo qof iska daawanaysaa sax la ruuxani aniga mawla u talagelin baa iska leedahay subax hadda waxaa ku qabanaysa mid dadka caaya isaga yeero ma garan laakiin haddii ay jirto needs haddii jiraan iyo wax calooshaada ku jiro leedahay halkaa markaa leedahayna ay ku jirto inaad value ka fikraysid caqligaaga ilaalinaysid aqoon ay jirto naftaada ixtiraamaysid akhlaaqiyaadka iyo tarbiyada ilaalinaysid tartiib wax kasta waa basic adiga haddaad first day filat inay bul ku noqoto first daygaasi ku dambeynaysaa صح maalinta imise qof hal maalin soo caan baxay maalinta ku xigtana cid ka sheekeynaysa aysan jirin labay kala tahay inaad magac bilgaraysid magac mana inaad bilgaraysid wuxuu u baahan yahay basic 400 qof haddaad joogto kuu daawato 400 qof ma aha de waa dad 400 qof waa dad alwaysna marka ciwaan macno la soo qorto haddaa ku sheegaya haddaad soo qorto mental health haddaad soo qorto ciwaan kastoo soo qorto macno leh 1,000 qof hadday daawato 1,000 qof oo ciwaankaas xiiseynaysaa ku daawatay ciwaanna ma isaga dhufan anaga waxba u baahan markaa youtube-ka gashid arano qof inuu jiro intuu youtube iska soo galo wixii ka soo horbaxa waa dhasha isaga siinaya صح صح baahi baa jirta markaad ciwaanka akhrisid baa daawanaysaa okay dadka ku daawanayaahi shaygaan bay xiiseynayaan shaygaana interest ku yihiin so haddaa hesho 500 oo qof oo lacagta interesting ku ah 1,000 qof oo mental health interest ku ah isku imaanayaan tartiib haddaa idin dhow ma aamineysaan youtube-ka intaan sameynayay habeenna ma dhihinin subscribe hala saaro channelka which ay ahayd in la dhaho صح. the data of CEO the guy la yiraahdo waxaa ku xiran 15 million plus baa u maleynayaa and then every podcast hal daqiiqo markaad daawanayso wuxuu ku leeyahay subscribe si waa khasab sababta waxaan shaqay ka tahay isaga dhaqaale laga sameynaya team baa ka shaqeynaya meesha in lagu xirnaado rabaa hadana value buu gudbiyaa the data of CEO waxaan ka sameynaya maarad inkastoo dadka daawada ay yihiin dad macno leh oo aqoon badan leh laakiin baahida ugu weyn haddaan soo koobo waxay noqonaysaa midda koowaad oo ah ku niyad jabinaysa waxaa weeye inay heshid views in platformka aad bilgaraynayso lagu xirnaado oo lagu xirmo waa u baahan tahay waxaa u baahan tahay haba yaraadaana dad ku dhiirigeliyaa u baahan tahay haddii sarkal ku niyad jabinaya ay kaa buuxaan wixiina waa nacaysaa wixii waa ka niyad jabaysaa waa ka caajisaysaa
dooro dadka wixii kugu dhiirigelinaya dadkan negative u badan yahay wax meel ay ku wadaan ma jirto dadka aniga xirfadda igula jira qaarkood waxay igula hayaan waxaan iska dhaaf asoo kaamirada ku leeyahay kaamirada dhig walaal ma waalan tahay dad baa igula ayagu hadda kaamiradihi wato wariyaal ama mana igu dhahaan waxaan iska jooji ma u malin inay ka baqaa inaad tartan la geshid kuwa saasoo kale dhahayaan laga yaabo laakiin there's a high chance sax waa tan kuu sheegayo audience inaad ka qaadinaysa dad baa moodaya moogta qofka Soomaaliga marka media qof kastoo media ku soo biira waxa la isleeyahay audience sa uma yaro moogta dadka hal muuqaal ma daawadaan maalintii qof dhahayo ma jiro anu maanta hal muuqaal Moon Media soo daawanaya kadib telefoon baan dhigaya ma jirto waa fiicnaan qof Moon Media hadaa dad noocaas la heli lahaa inta haysto ma siiyo qofka Moon Media galaya Abdiis buu galaya oo ka sii baxaya meel kale wuxuu galaya Chelsea podcast uu sii galaya abar buu joogaya ma garan inta aniga daawad ma seexanayo haddana ku soco kuwa marka iyo dad baa u baahan tahay xogaa aad wareysatid mana ku yaqaanaan ayagina kuma yaqaanaan wax la yiraahdo dad kale ku yaqaanana ma jiraan dadka idea waa gadi kartaa dhigi kartaa inaan intaan qof ay ugu xiranay marka qofka needs baa jiray wuxuu dhahayaa waaw meeshaas aan laftiga u baahan inaan tago sax laakiin adigu cidna ku aqoon marka guest istiraada u yeero marka idinka hadda laan dheeraabitiin sax idinka isku camalay teamkiina oo sheekaysta sax cidna u baahnidinba laakiin marka hadda keligii ku bilaabayay guest baa u baahanahay guestigiina aan connection la mali sax rag saaxiibadayo aan arrin toobi ka sheekaysanana meesha ma joogaan okay qofka guestiga ahaa daba soconaysaa qof guestiga ahaas uu kugu baashaalaya aad ruux ku leeyahay war adiga maxaa qabataa bartus meesha tusaysaa qofkan waxaa lagu wareystay bil ka hor meel 200 ku xirantahay adna waxaa wadataa 200 qof wuxuu ku leeyahay adeer waqti aan naga lumin waa ogle CV fiican ma wadid CV kugu soo raaco CV ugu fiican marka media ku jirtid in lagu xiran yahay subscription iyo followers waxa waxa adiga kuma baahnidee kuwii waaga igu baashaalay hadeertan waxaan ku yiraahdaa walaal raalli ah mashquul baan that's how it is waxaan xasuustaa qof aan maalin videogii labaad miya saddexaad guestiga koowaad aan rabay inaan ka dhigo waan text garay waan message garay waxaan dhahay podcastigan baan leeyahay inaa ii imaadidaan rabaa oo qof magaaladana kastoo kale maxaa la dhahaa some kind of influence ku leh ma fahantay oo la aqaano marka adiga isla markii qof dumar ahayd marka isla markii waxay dhahday diyaar waaye ii soo diray dhahday linkiga oo maxaa la yidhi channelkaada waa fiirinaya hadduu fit yahay then waa imaanaya I'm gonna come okay marka I was like no problem linkiga halka kugu jira like waa videogii labaad miya saddexaad aan sameeyay waayo maleena marka marka waa u sheegay marka waxa aan u soconno ulajeedada waxaan waa cusubnahay bad ulajeedada aan u soconno waa community adigana I feel like inaad wax weyn aad nagu soo zaa'idinaysid maadaama community-ga ku dhex jirtid aad la dhiilgaraynaysid so caqabadayaasha iyo waxaas I think community-gana wax u soo jeed anagana muhiimadeena ugu weyn waa inaan community-gu faa'iideyno bahalkii baan tusiyey linkigi baan u diray linkigii bay fiirisay no reply since now well no reply aniga marka at this moment I have to speak I have to say are we still doing this wixii ma sameynayna mise waa lagu kala tagay left scene waa la fiiriyey waa la open alaga tagay so at that point I'm like okay qofkan they're not interested move on adiga about 3 weeks ago miya waxaan keenay dhakhtarad baan keenay oo ka hadlaysay caruurta iyo waxaas videogii bay soo aragtay way ii soo dirtay maasha allah I love the podcast and I would love to join the conversation inaan macnaha conversationka soo galo aniga markaas at this point haddaad dhahdid mindi ku taag it's not good ma ogta qofkan qof waxaa waaye oo marka waxaan dhahay yeah we can do that dhahay anytime and date ii soo sheeg marka sheekada waxaan ku keenay sometimes I really like that waxaan ayrisaa moodayay my because at the end of the day maanta ulajeedada podcastigana u faraysnaa me ma fahanta haddii ani ahaan lahayd wax aniga iga socda hadduu ahaan lahaa egogeyga kicking garayn lahaa inkastoo egogeyga uu kicking garay aan rabay a lot of things inaan weydiiyo andho maxaad
open igaga tagtay oo aad like at least honest la noqo waniyo meesha wax daawanay ma jiro koodhe bal kisto soo grow garay kadib aan isku imaan hataa wax ii sheeg ma fahanteen instead feedback instead of just ina iga carar lahayd marka sheekada waxaan ku keenay hadda caaqibadahaas oo kala ka mid aho markaad ko waxaan bilaabaysid unless aad tahay qof already maxaa la dhihi jiray wixii sii build garay establish inaad tahay ma oye markaa qof caadi aad tahay way adag tahay especially markaa sameynaysid something oo positive ma taqaanaa because saan sheegnay negative-ka naftarkeeda hadda nafteena nagu dhex jirta maanta waa maalin barakeysan oo in la soomo ee tahay oo maxaa la dhihi jiray cibaadada way ku adag waxyaalaha fiican nafta way ku adag tahay the same way waxyaalaha fiican ee nafta ugu adag tahay ee hadallada fiican oo positive-ka nafta ugu adag tahay maanta markaa gashid fiiri aniga TikTok markaan galo social media markaan galo TikTok-geyga waxaan ka ilaaliyey cause waxaan at the end of the day waxaa daabatid uu ku tusayaa ma ogtahay waxaan ka ilaaliyey inaan wax xataa hadaa arko waalan xataa not interested inaan ku qora isku daya ma fahante si aan u arko dad aan wax ka faa'iidi karo marka aragtid videoyaasha zaid baa u adagtay inaad bilowdid dhamaysatid marka aragtid nin itemaayo for some reason waaba iska jeceshay inaad iska dhex fadhidid meeshaas ma fahante oo aaba entertain grace because naftiya waxay u baahan tahay entertainment naftiya waxaas like in a weird way adigio og waxaan inay qaldan tahay haddana sii daawanaysa maalin baan video baan arkay nin odaya oo gabar Soomaaliya caanayo marka way sheekeysanayeen gabadha asi labadooda life ay iskula jireen markaasuu gabadhii wuxuu leeyahay nal ma ku shidan gabadhu waxay leedahay nalku ii shidan yahay to be honest fatahim ani xataa naftirkii gabadhu uma jeedi markii screenka ugama jeedi asina wuxuu leeyahay kuma shidna shidan nalka as in like nal amala asaas we need to see you amal gabadha marka waa daaq ahaan uu ku haystaa waa ma fahante shidan idan ala abu ii shidan yahay nalka wariimin war kuma shidna shido soo qara hadaad aragtiin kuwi meesha waxay leeyihiin kuma aragno kuma gabadhi aniga marka videogaas halii aan daawanayay to me funny ilad and then at the end waa isqabtay waxaan dhahay qofkan confidence-giisa gabadhan hadda qofka uu galaayo qofkan soo u galaayo waa wax qaldan marka nafta waxaas oo kale marka aragtid videogaas oo kale hadda marka aragtid waxa laga yaabaa a little entertainment inay ka soo gasho adimise qosol yar inay ka soo gasho but then marka sii raacdid waa meel isku bahdilayo waa qof bahdilayo adigina ku sii jijibinaysa qofkaas waxa laga yaabaa for that suicidal inuu dhaho meeqa la arkay dad intii fat shame all the shame kan intii lagu sameeyo oo isdilo so nafta marka ay ka mid tahay midda kaleeto oo podcastigan aan ka hadlayna positive-ka waxaa waaye meel baa soo fadhiisanaysaa Soomaalideena qof walba opinion uu leeyahay adiga markaa ka hadashid xalay baan aan maas arinaan ka hadlaynay video oo arin oo uu ka hadlayo Africa ragga aadayo oo ku soo guursanayo Nairobi oo soo laabanayo dad badan baa marka waxay dhaheen kii oo necba maasna uu ka sii faa'iideystayo inuu maas dadka ku sii diro kubi kaleetana because maas arinta uu ka hadlayo maaha Afrika gabdhahooda dhan waa jaahiliin ma dhahoyo wuxuu dhahoyaa rag baa waxay taageergaraysanooyin gabdhaha Afrika jooga oo waxba baranin oo maskiimiinta oo familiyaasha ka dhashay needka lacagta u baahan ka dhashay rag baa gabdhahaas intay ka faa'iideystaan soo guursadaan hadhowdina ego-gooda feed gareenayo gabadhiina wuu bahdilayaa asagina soo maas arintuu ka hadlaa way ka weyn tahay aqoon laakiin dadka badana waxay ku focus gareeyeen oo ninkan gabdhaha Afrika wax ma aqaanaan waa jaahiliin buu leeyahay ma fahante ay gabdhaha Afrika wax ma aqaanaan waa jaahiliin gabdhaha Afrika waa maxaa la dhihi jiray aqoon ma laha gabdhaha Afrika dadka taa wal sii sheegareynaysan marka macnaha waxaan ka wadaa markaad wax positive ka hadlaysid xanuunku ugu weyn wuxuu yahay everybody wuxuu la imaanayaa maxaa la dhihi jiray opinion oo taada ka dugan oo uu rabo adigina maanta de qof xataa wax soo jeedinayo ma dhihaysid aniga dadkii oo dhan aan ka fiicana that's the image ma aha aad tusaysid dadkan ka fiicana ma dhihaysid waxa leedahay oo kaliya niman yahay aniga community-gana raba inaan wax ku soo zaaidiyo so I think that's the other thing oo positive-ka markii la sameynayo podcast-iga negative-ki positive because negative-ka wax inaad diyaarisidba ma wax inaad dad u sheegtid ma waaba adig yaa waa funny waaba qoslays dadku kugu qoslayaan positive-ka is like in maskaxda qofka shaqadiis la qofkan soo aan waxaan igugu sheegi karaa ma iga fiican horta waxa ugu badan waxa weyn hal arrin ku sheegaya dadka content marka la create garanayo niyad jabiyayaasha kuwa la yiraahdo ugu badan dadka TikTok commentiga qora way horta hal arrin ku sheegaya anu I watch podcasts kuwa badan waliba
weligeyna comment ma ka bixin dadka saxda aan waxaas la comment ma qoran si baan isku dhahaa in somehow hal waxaan ku sheegayaa waxba barnaamij baa ka shaqeynaysaa hadda broadcast ana maanta sameeyno waqti baan soo wada tanaasulay 4 shaqooyin 5 shaqooyin baa lahayn waa imaanay team baa hadda naga shaqeynaya duubaya waqti iyo lacag iyo hawl baa ku baxday inuu soo baxo 100%. xariif jooga xero qaxooti Soomaaliya ah ama meel gees ku taala oo internetka qof soo siiyay internet yar oo 25 cent something like that qof ka soo qaatay ama daris ka soo xaday gurigu imaanaya saas dhabac oo u jeefsanaya moogtahay cagahana boor buu ku bad buu ka imaaday wuu soo galaya this guy asoo qorshiisa dhan waxa weeye waxaan baraha bulshada ka socdo inuu wada negative wada qoro intuu sax internet iska go'in shan podcast uu comment uu qoraya waxa aad sameynaysaa waa khiyaali uu leeyahay jahilin yahay oo ka baxaya mid kale uu galay ma daawanaya video waxaa la yaabaa waxa kamid video 2 hours and half minutes man soo dhigay 2 hours 30 minutes podcast aan soo dhigay podcast wuxuu ku jiraa 5 minutes mid wax soo qoray inta dhameysatay like isaara bro adaa dhameysnin be anigu waa comment 5 minutes hada kuma jiro ka kuwa la mid ah ku soo qorayaan asagoon daawan codka xataa wali soo furan wuxuu ku leeyahay jahilka idinku fiiriyo meesha soo fadhiya uu ka sii baxay mid kale uu galiya shan intuu caayo shan qof emotionalkooda ku ciyaaraya marka uu seexdo yarka magaca loo bixiyo dadkaas ma ogtahay internetka uu ka dhamaaday yarkii habeenada baa ugu dhow qaarkoodna laba bir kadib buu ribalay qoladii u soo gashay ayagina caayo iska baxay qaarkoodna waxay sameynayaan aniga kuwa iigu daran waxaa aan garanay kan dhahayo اللهم صل على سيدنا محمد نبيك كو سلام هذيك قول اكو دعده ما اتنشن ما دافكر لايك مليون وجعسري كاس عند كومنتس وحسنه ان somehow صح raggaas waxaa la dhahaa comment ku dhiigle كومنتku dhiig loo bixiyay laakiin iyagu wax qorobada ma marka hal arrin ku sheegaya waxa la yiraahdo pastor fada ka shaqeynaysid ma helisid daawasho iyo been weeyaan hadda moon media qofka yaqaana wuxuu ku yaqaanaa wax wanaagsan 100%. waqti bay yar qaadatay wallahi waqtina ma qaadin bayna sheegaya moon media hal sano iyo wax jirtaa dhowr bilood aan fiidiyoyadanada 1 milyan 900,000 800,000 1 milyan waxay shishid TikTok iyo Facebook ka daawanaysay waxa ka hadlanay baarinta ma ka hadlanay barbaarinta caruurta ka hadlanay guur ba ka hadlanay hal mid caaw intii la soo qaado aniga la igu dhaliili kara ma ku jiro صح aniguna waa ku enjoy gareynayay dadka i daawanayeen intay ku enjoy gareeyeen ani hal waxyaabaha idin galiya ugu weyn waxa kamid ah markay maamo hooyo suuqa kaaga hortimaado adoo dukaanka adeeganaya koska ku dhex jira islaan ay ku tiraahdo eedo miyarkii baa tahay ha eedo maasha ilaahay khayr ku sii maalin loo sheekh aad keentay qalbiga waxa leedahay ruuxan sii wad baa isleedahay yeah sheekh bay daawanaysaa ka hadlay barbaarinta caruurta research soo sameeyay oo ilmaha yararka hadda jooga sida ay tahay in loola dhaqmayo behaviorskooda ka hadlaya hooyada shirnaa nooda sheekh ka hadlay af Soomaaliba ugu keentay way daawatay maamada markay ku tiraahdo hore u soco khayr Allah ku siiyo wax fiican baa soo baahisay adigina waxa ku dhiirigelinay صح and then daawasha ka helnay magac ba ka sameeynay wixii wanaagsanaa ba magacna ka sameeynay daawashana ka helnay nala kuna ixtiraamaya dadka aan ugu dhex jirnaa haddii aanu laakiin maalintii ka bilaabi lahayn maamadaas koska ugu dhex aragtay miyay dhiiraad hooyo khayr Allah ku siiyo may ana shame dareemi lahaa yeah dadkan caanka dadka caaya iyaga xishooda run bay idin sheegayaan Absolutely. ana number badan oo kamid ah iyaga xishooda meelaha kuma aragtid badankooda kuwa guryaha ka soo dhaxqayla dadka caayo qabaylada caaya meelaha ku aragtaa may ma arkaysid waa dhuumanayaan raggaas yeah nolosha ugu xun bay ku nool yihiin hell way waxay ku jiraan naar guri markay ka soo baxaan qof kasta waxay moodayaan inuu iyaga caayo ama dilayo in la dhibsanayo dareemayaan guilty bay dareemayaan sababta marka xun tahay haloosha waxa ka dareemaysaa jeetaa xul ugu sheegay marka waxa waa self projection waa Yeah. camal waxay ayaga dareemayaan inay dad kale ku raxayaan fuse lifekaas ku nafisaanba lifekaas ka hadlaan bas hadda aad isku aragtaan xitaa communicationkooda waa zero كل ما هذا كان dadkan qaarqayri hadda aragtid hadda la hadashid laba hal daqiiqo hadal caadi ma dhex mari karo ADHD life la dhaha ku dhacayba yeah waxay doctor ku yihiin commentilayda waxa la yiraahdo commentigaasay akhriyaan la nool yihiin U jawaabayaan. waaqiyaadka caadiga ah saameysay noloshooda caadiga ah saameysay maskaxiyan bay u saameysay qaarkood inay waashaan bay ku dhow yihiin ma is leedahay qaarkooda hataa way jiran yihiinba they're not okay maba noqon karaan okay qof adi fiiri ninka Mareykanka muhiimadeena annaga dad kale inaan wax ka waxaan annaga ka hadlayna ma I know there are a lot of people noocaas oo isku xun but at the same time annagana inaan dhahna maahan dadkaas way xun yihiin dadkaas way xun yihiin though annaga inaan dhahnaa ma ayna maahan may though ay ma aha here's the thing though different thing somewhere mokta ka hadalno no I understand what you're saying but here's the thing right
anaka at the end of the day Soomaaliya nahay Soomaaliya waxaan shakhsi maaha. This is not personal. It's community. صح So community-ga waxyaalo waxaa jiro anaka hadda markaan aan ka hadalno waxaan uu videogan meel tago waxay u baahan tahay qofka oo videogan daawanayo ama video kala daawanayo ilaa hadda muhiimadda waa wacdi gelin ani markaan aan haddaan ka aamusno anaka raggan ee waxay rabaan sameeyaan ragganna ma qof walba oo sameeyna waxaas oo waxay rabaan ay sameeyaan waxay noqonaysaa saa ani hadda aaminsanahay sidoo kale hadda ma rabo inaan politics galo laakiin hadda wadaadada Soomaaliya I believe politics way ka aamusaan way ka leexdaan laakiin ani I would love to wadaad Soomaaliya inuu politics hataa isku day hataa inuu asaga u ordo ma fahante si uu ila wixii hadaada adiga adee wixii aad leedahay you have to start somewhere ma fahmino you have to be the person hada adi dadka la eedeynaysid adi aad qaadanin ushi so ana hada dadkan waxaan ka wadaa waxay taa mataqaanaa ina anaka aan tusino qofka hadda mayga haysto oo waxaan sameynayo oo ay tamayo oo maxaa la dhihi jira qeylidan community-ga meel xun ugu jira waana ogna meel xun u wada because waxaad arkaysaa anigana oo waliba family ahaan markay noqoto hata ku sameynayo gabdho yaryar oo family-gaada aha arkaysa oo ku dhahayo social media galaya and because of saanaana rabaa inaan gal markaa weydiisa negative side ku qaadanaa markaa weydiisa adhaad maxaa negative ka doonaysaana because waxaan kaleeto wax i daawanaya ma laha dadka waxay famous ku noqdaan saan qofkan wuxuu famous ku noqdaa saan so ani saana rabaa inaan famous so marka in that situation magaran it's your responsibility to educate that person and tell them the downsides and the pros and cons. That's what we're doing right now but Soomaaliya biri waxa leenahay anaga ma dhahayn Cabdullaahi Jaamacada Hiruudka la dhaho tuug baa tahay khayaan wala tahay dadka caayda ma in general leenahay the society oo community-gana ugu badan oo dhaqan xumada ka shaqeeya dadkaan ogeynoo dadkaan wax xun bay sheegayaan kuwa ogoona sabab u daawataan ma jirto waxa daawan kartaan wax baasarif ah Cabdiis baa subscribe saari kartaan wax knowledge baro ku anfacaya daawan kartaa waqtigaaga sharafta badan saacadahaaga macnaha leh ku lumin inaad daawatid qof waqtiga ka luminaya oo akhlaaq aan lahayn oo cilmi lahayn oo jaahil ah oo dadka caayayo qabiilada caayayo diinta caayayo ilaahay caayayo aan xishoonaynin waqtigaaga ha ku bixine wax macna waqtigaaga ku bixi ma dhahayna anaga uma sameysniba waliga qof ma ka hadlinba soo wadarta guud qaar kamid ah xunxuni walaalayaal waxa xuntihiin xumaanta joojiya kuwa daawanayona waqtigiina wax macna la ku gudbiyaa leena aniga lafteeda dhaliil leena dad baa hadda waxay aaminsan anina qof xun ahay kuwa ay la soo hadla marka qaar wax yar baad si kula ah qof si la noqonaysa soo adduunka ani waxaan u jeclaa qofka ii soo qoran waad khaldan tahay public igu sheega private igu sheega uu yiraahdo waxaas ma wanaagsana podcasting last time asameysay waxaas ku dhex jira iska dhaaf balga yaabaan lagu soo qoro question for you this is waxa day is that like literally is there anything or isdhahaysi waa adiga wanaag oo dadka kale markay daawadeen u arkeen wax xun inuu yahay amala oo sidaad u maleynaysa ma si kale loo qaatay ma jirtaa dadku dhow ma qaadanayaan marka number baa u qaadanaya bini aadamkuna hal maskax ma laha qof bas wax leeyihiin qof baa wuxuu dadkeena waxay ka mid yihiin dadkeena aggressive bay ku yihiin dadka ka afkaarta duwan dadka soo xataa argagixisa u leenahay moogta bini aadamku iyaga kala arka duwan bay wada nool yihiin maraykanka hadda haddii systemka dood meesha ka bixi lahaa dadka hadda nooc kasta iyagoo isjeclayn bay haddana la wada nool yahay qolyaha hadda bidixdayaasha waa la bireen lahaa haddii nidaam ku jiri lahayn kuwa waxaa jooga aan muslim ahay laakiin layn lahaa baa jira oo nacab haddana waa la wada nool yahay maxaa lagu nool yahay waa kala arka duwannahay laakiin aan wada noolaano aragtidaada waa la ixtiraamaya laakiin midda Soomaaliga waxa weeye ana qofan ka aragtida duwanahay asaga maaha inuu diido aduu kullee ma keenaysid qof baa casuumaysaa maas baa keenaysaa maas marka hadaladiisu waa kuwa qayaxan dadka qaar baan jeclayn qaarna waa jecel yihiin kuwa aan jeclayn anay la soo hadlayaan way maas u keento aan marka maadaan ku ahay masaa u nicibtaa u nacaa maxaa ninka cidna muusan caayin aragtibuu ka hadlay platformkii hal arrin mas'uuliyad ka saaran tahay intii qof soo fariisto hooyada wax ku sameey qof kale kuma dhahayo wax kasto akhlaaqiyadka ama mas'uuliyad baa iga saaran inaan meesha inaan dadka ka ilaaliyo laakiin afkaartiisu asagoo imisa qof iga aragti duuma wareystaa aniga kuwa aan aragtidooda dhaho qofku ma waalan yahay baa haddana hor fadhiya waan anigu challenge garanaya waan dhihi karayaa inaan dhaho qofkan uu iga aragti duwan yahay mana wareysanayo laakiin saa nolosha uma shaqeyso nolosha waxay ku qurux badan tahay iyadoo la kala afkaar duwan yahay so waxyaabo badan baan sameeyay wareysiyo badan baan qaaday dadka qaar baan jeclaanin dadka qaar inay jeclaan waayeen ma aha waxaas inay xun yihiin waa in afkaar kale ka duwan ay diideen ilbaxnimadu ma aha qofka afkaar duwan inaad diido
ka afkaar duwan tahay and bas. that's one of the things maxaa la dhihi jiray channelkaada mise Moon Media aan ku taageero ama ay iga bedeshay ani ahaantii shakhsi ahaan because koodii ani waxaa aaminsanaa haddii aniga aan podcast sameynayo mise aan meel aan furanayo oo keliya dadka aniga isku wax aan nahay maxaa la dhihi jiray isku aragtida aan nahay inaan u waco dadka isku aragtida ahayn inaan iska ilaaliyo marar badan baa arkay qof aad u keenaysid qofkan bal waxaan wuxuu u sameynayo bal dadka u sheego ileen haddaa anaka dhan dhahno qofkaas waa saan oo qofkaas weligiis hadlin maxaan ku ogeynana qofkaas wuxuu saas ku yahay soomaano waa qofkii storygiisa horta in la ogaado hadduu xun yahay markaas la dhaho war qofkaas hal soco podcastiyuu qabtay oo meeluu hadlaayee bar soo fiirso wuxuu saas u sameeyey meeshaasuu ku sheegaya meeshaas kaga soo orod soo dhegeyso qofkaas markaad dhegeysatid waxaa ogaan kartaa wuxuu ku dhihi karaa niyo meesha ani cuntaa iga gashay meeshan waxbaan ka raadsadaa niyo ani meeshan viewsa iga galay niyo aniga maxaa markaas adiga perceptionkiisa markaas ogaanaysa oo midda kaleetana xataa hadduu qofki qof xun yahay dadkii waxay sii tusaysaa awalba waa ogeen laakiin benefit of the doubtka anakoo siinayno wuu sii proof gareeyaba inuu xun yahay mafahante marka I think one of the podcastiyaasha dadka badana waxay u maleeyaan markuu mahad qof guest uu u waco uu la hadlaayo dadka qaar waxaa jiro qof wuxuu u qaadanayaa war ninkan viewski baa inta ka galay mise war ninkan maxaa la dhihi jiray ninkan wuxuu ugu wacdaysaan no mahad duurigiisa waxay tahay uu waxaan dhan uu u furtay inuu Soomaali keeda xunkeeda fiican macalinkooda wadaadkooda everybody in uu voice u yeelo kan xunna wuxuu u xun yahay inuu sheego oo haddii la celin karo meesha lagu celiyo oo la dhawrniyahow ma kula taa waxaan inaa ka soo laaban kartid oo isdhaw wallahi run waayaniyo waxaan ma ka soo laabatid waa asin naftirkiisa self reflection samee kan fiicanna inuu si dadka sii wacdi geliyo laakiin haddaa dhaad ani kaan raba la iken haddii kaleeto kuma daabanayo then now is like a box dadkii box gareynaysa boxkaasna muhiimadda ugu weynna dalkan aan ku noolna boxka in laga baxo waa wax loo baahan yahay anaka Soomaaliyan haddana su-aashayda kale ii keenaysaa taas oo luqadda oo af Soomaaliga iyo af Ingiriiska badana anaka waxaan lagu haystaa cabdiska waa luqadda dad badana waxay dhaaniyo waxba isku dhaxwadiin hal luqad ma ku adkaatiin ani waxaan aaminsanahay qoomiyad dhan baa maqan oo Soomaaliya oo dhalinyaro oo u maqan luqad darteed ma fahantay dhalinyaradaasna the only way oo lagu soo jiidi karo mise lagu soo gelin karo communityga mise voice-kooda ay ku soo dhiiban karaan waa see ayaga u hadli karaan inay u hadlaan because qof haddaa dhahdid ama af Soomaali ku hadal ama ha hadlin dhib baa keenaysa Soomaano marar badan ani waxaan masajaal badan baa waxaa ii soo dirto dhalinyaradan loo aqaano say wallaahiga oo dhahoniyo hataa af Soomaaligeeni baa ku improve garoobay because af Soomaali ayaga ay fahmayaan anaka ku hadalnaa badana ayaga haddaa aragtid cuniga say wallaahiga markuu hadlaayo hal Soomaali iyo 3 Ingiriis isku darsadaa badana anaka markaan hadleeno waxaan isku dayaa aniga inaan fair u noqdo ayaga anoo af Soomaali ku hadlaayo Soomaalidan wax ilan qof aniga dhaadhicin kara ma jiro Soomaaliya cabdisaan daawaday waa fahmi waayay af Soomaaligooda because waxaan ku hadleeno waa Soomaali ma aha luqadooyin kala duwan Cameroon ma nihiin oo 300 oo language leh ma nihiin anaga Soomaali hal luqadaan leena hal Ingiriis ku soo dirtid nin professor jiro oo aan daawado oo aan Facebook ku arko meelahan dhinaca Soomaaliya professorka yahay af Soomaali wax ku soo jeediya soo hadla hal Ingiriis ku soo dara soo hadla hal Ingiriis because vocabulary-ga Soomaaliga ereygaas waxa laga yaabaa Ingiriiska inuu ku fudud yahay inuu ku sheego ninkaas so maxaa isleedahay caaqibadaha oo markay noqoto podcast markii la sameynayo luqadda in af Soomaali uu ka baxo podcastiga oo ilmahan ciyalkan meeshan ku koro mise wadamadan ku koro say wallaahiga hataa kuwa waxaa jira Kenya ku dhasho ku koro af Soomaali aqaan af soo xil ku hadlaa jiro dibadda kale haddaan ka soo baxnay Kenya noo dhow ma isleedahay marka luqaddaas inay dhalinyaradaas oo loo sympathize gareeyo waayo oo luqad podcast mise wax markii la sameynayo in lagu daro waaye ma isleedahay waxaan isleeyahay som English waa muhiim platform sida u sheekaystaan rowga xitaa wiilka Soomaaliya joogeen Englishka aqoon uu u baahan yahay inuu daawado podcast-ka because marka anigu yiraahdo consequence waxa weeye ciqaabtu waxa weeye aan ku xijiyo erey English barat hadaad hore u aqoon
so qofka xitaa aan Englishka aqoonin platformku waa anfacaya waa inuu barto waa inuu intuu daawado always waxa laga yaabaa in ereygii af Soomaaliya English ku sheegtaan haddiina kuba sheegina qofka Soomaaliga English ku hadlaya Englishki more easy English ku hadlaysan waliba hatta qofka Soomaaliga ahi English badan baa anaga ku hadalnaa moogtahay English what is the 15 for you ya xasuust waxa kaaga shan iyo toban firi yani private mo aha firi hatta qofka Soomaaliga joogaahi wuu u baahan yahay marka podcast dhanoo English 2 hours hadaa daawan karna ay kugu adag tahay dacabdiis oo kale waxaad waa daawan kartaa because you know Somali English isku yar dhex jiro oo ba ka faa'iideysaa dhalinyarada halka aan runta ku sheegay aan mar waxyaabaha marka ursa Moon Media bilaabna la yaab waxa kamid ah horta Moon Media dhowr jeer taa Moon Media qof kamid ah aniga ahay waa platform la'aanteedu shaqeeya rag kala shaqeeya laba nin saaxiibada ayaa host ka ah teamka editorialka ay wadanka xataa ma joogaan banaanka qaar baa jooga dhalinyarada Soomaaliya shiisa qaar baa Soomaaliya jooga oo waxay noo edit karayaan wareysiyada ayaga soo saara jacayl nacayb kuma shaqeeyo hadda aan qof aan jecelahay qof aan nacabahay qof aan nacab meesh kama ceyrin karo dad aan jecelahay ma wareystaa anigu emotionki kuma shaqeyso before Moon Media anka podcast before Moon Media sameyn jiray markaas qofkan jecelahay qofkan nacabahay aan wareysin jiray ama diidi jiray hadda laakiin anoo ku nacab baan ku soo horfariista wareysi ka qaaday waa institution emotionki private buu yahay waa institution we build an institution oranaya okay emotionki meel buu iyo leeya let's do the interview marka ma garad in loo sinaado صح haddii dalka aad tiraahdo jacaylkayga ku dhisnaanaya aad marka week caada ku jirtaa may jacaylkaaga meel ku yaalo emotionka guriga soo dhigo صح waxaas ma ku fiicnaa ilbaxnimadu okay Englishka Soomaaliya isku dhex darsan xariifas comment ku wartu waa wax cid idin saameynayso qof intuu meel kaaga hor yimaaday sawaari oo kartma ku yiraahdo inuu jooji Soomaaliga nadaada English ku dhex wadaan comment bay u badan tahay dhalinyarada wadankii joogta ee rabta in af Soomaali lagu hadlo af Soomaali platform badan oo ku hadlaya jirta nimankan dhalinyarada waxay isku dayayaan inay laba qol isku dhex wadaan those say generation ana had marka qarxan ku raagahay say ugu fahantaan waxyaabo la yaabo waxa weeye ayaga laftooda dhibaato ah Soomaaliga inay ku hadlaan bay rabaan samo ayaga kamid ah qaar waxay ku leeyihiin maamada ku daawata waa kula daawanaa teenage ku ah qaar xaafada ka shidantay dhahayaan qaar kood waxay dhahaan waxaaba ku daawanaa in af Soomaaliga ku baranaa Moon Media صح okay aniga wax dhibo igu hayso marka luqad marka qof kasta oo wareysanayo inaan ku iraahdo hey English ha ku hadlin maya erayada qaar Soomaali ma la yaqaanaba okay imse erayada Soomaali ahaan baa jirta boqolaal صح inta kale tana adiga iyo audience-ga iyo daawadayaashuba erayo hor la baranaysaan English had marka qaar inay balay iska dhigayaan Englishku wax balay la iska dhiga ma ah iska luqad weeye waxyaaba qofkan wixii aqooni cid taqaan balay asaga balay why though what does that mean balay like you're acting different amal like hadda qofkan soo galay English isku dhigay ama dadkaas isku dhigay I think minority dadka oo inta lama daaweeni karo midooda saasi aan lama daaweeni karo comment ku jirayaan but dadka kale to they like metric ahaan u fiirisid data dadka u badan always way fahmayaan way wax bay ka baranayaan cashir ka baran but dadka always negative ka adduunka hadda aan shalay wiil baan wareysanayay siyaar baan wareysi uga soo qaaday wareysi erayo badan English ku hadlaya Soomaali erayada badan ku mudii karo aniga waa ogahay halka grow up here and then he built warehouse dhan oo ku yaala Seattle Washington computer reselling bay sameeyaan business aanu malalay million company meesha ku haystaan so wiilasha Soomaaliga qof kasta Soomaali ku hadla wareysiga intuu fahmo uu daawan karaa aniga waxaan dhahayaa qofka aan erayada Englishka fahmayna waa inaa fahantaa hadda qofka Soomaaliga joogahay waxaan ku dhigaa in wax kasta baranaysid marka diinta baratay luqadda English ku xij because wixii ay noqotay qofka iyada yaqaan noolaan kara dadka qaar xilligan waa luqad isnaara just a language English hadaftan waa academic language wax kasta baahi kasta hadda English ay ku xiran tahay waxa u baahan tahay ma helaysid in English taqaanid weey ma garad so dadka hadda erayada yarka ka cabanaya waa inay dhahaan maye kuwa ka cabanaya in af Soomaali bas ku hadashaana waa inay yiraahdaan af Soomaaliga yareeyo English ku hadla kuwa dhahaya dhalinyarada halkan joogtana
iyaga wayaan bad hadda iyaga hagaysaan wax fiican baa sameynaysan iyaga laftooda way rabaan cid ay comfortable ku dareemaan oo isku dhex qasaysa wixii because iyaga isku dhex qasan moogtahay so marka waxay dareemayaan more related bay dareemayaan xogaa qof sidiisa u hadlaya qof markuu arko bini aadamku way jecel yihiin qof isagoo kale qofku inuu daawado صح صح qof صح markuu isaga dhex arko oo aad isku dhex qasaysid ana hadda waa ka shaqeynaa inaad ayaga keeno qof ku dhan hey waxaa comfortable ku tahay English Soomaali ku dhex dari kartaa ha ku dhex dar some English ku hadal some English isku dhex qas so idinka waxyaabahaas oo kale oo iska basic idinku sidaa rabtaan u wada dadka Soomaali joogan u sheegay wax ku tiraahdo hey anagu platformkana waa Soomaali laakiin inaan English ku darno wax dhibaato kuma qabno waaya waxaa xasuustaa aan TikTok samayn jiray aniga xaaskayga baan the whole platform waxaan u sameynay oo aan meeshaas u sameynayn waxay ahayd guurka oo especially Soomaalida mise dhalinyarada muslimiinta badanaa waxaan arki jiray negativity inuu ka jiro dadkan oo ajnabiga ah inay u qabaan macnaha gabdhaha muslimiinta markii la guursado inay ay maxaa la dhihi jiray la abuse gareeyo mise in noloshooda macnaha ay dhamaatay oo fun ay jirin saan marka platformkaasa markaan iyo xaaskayga ka wada fadhiisanay waxaan dhahnay warif haddaan platform create gareyno oo aan ku jeclaysiinayno dhallinyaradeenana guurka aan ku jeclaan dhehayno waa kana guurka micneeda ma haddii la guursado fankii wuu dhammaada ma dad isqabaa fan wada yeelan karo wada wareegi karo video wada sameyn karo macnaha nolosheena caadiga ah marka videoyaal badan baa marka waxaan ku sameyn jiray ani marka videoga waan fiiriyaa messagekan hadduu ku qurxoon yahay ingiriis oo ajnabiga uu qurxoon yahay ingiriisaan ku sameynaya hadduu messagekan af Soomaali uu Soomaalida anfacayo af Soomaaliyan ku sameynaya mar walba marka af ingiriis ku hadlo boqolkii comment almost 60% of it waa dacaayad oo yuu la hadlaya ninkan waa nin Soomaaliya yuu la hadlaya war dadkan soo Soomaali ma yaa la hadlaya ani marka maskaxda waxa soo gashay aabkan TikTok gal dhawsan ogaanin Asian baa sameeyay aabkan Soomaali ba Soomaali ba ku jirta like qof kale oo Soomaaliyan ma ku daawan kara miyaadi ilaa ay markii dambe ay aan gaaray in aan explain garay aan walaalayaalow marka aniga af ingiriiska ku hadlaa micnaheeda ma ina af Soomaaliga saad sheegtay balaa ina iska dhigayo mise aan af ingiriis ku faanayo ma af ingiriis maxaan kaga faana wax lagu faana ma laha meeshan moogtaa haddaan maanta aan accolade wadan lahay meel soo dhigi lahaa kanaan qaata fan waay laakiin luqadan ku hadlayo fan ma noqon karto so marka waxaan dhahay isna because of ku faanayo ma ahana is because of message kaas uma maleeyay message dadka Soomaaliya jooga mise Afrika jooga mise qofka aaban luqadan aan fahmaynin oo anfacay inuu yahay because qofka Soomaaliya jooga guurka sibuu u aqaana sibuu guurka u yahay qofka America jooga guurka sibuu u yahay ajnabiga guurka sibuu u yahay so message kan wuxuu quseeyaa dadka ajnabiga anigana ajnabi hadaan wuxuu sheegay af Soomaali kuma hadli kari marar dad waxaa aqaana Nigeria joogo dad Uganda joogo dad waxaa aqaana Hindi oo India joogo oo message noo soo diraayo dhahayo please videogaas aad hadlayseen ma fahmin waxa ku hadlayseen af ingiriis ma ku soo sheegi kartiin erayadaas we wanna couple ahaan i jecelnahay inaan ifahanaa rabnaa so ani marka meesha soo fadhiisto aan af ingiriis ku hadlayo doesn't mean balaayina iska dhigaa mise luqadina aan karaami Soomaalinimada inaan ka cararay it means message ka aan lagu matalagelin soo qoraya balaaye iska dhigaysa asaga insecure dareemaya waa asaga cid ay tahay Soomaalida hadda number intee lag ba English ku hadla number yar number badan baa ku hadla hadda waxa aaminsanahay Minnesota dadku joogahay 75 or 80% English hadda ku hadla ma fahmi oo Soomaalida ah yeah the whole generation ay luqadoodu waa English ba oo meesha ku dhashay ama ku koray laakiin generation ka labaad hooyooyinka English way fahmaan xogaa soo celintiya ku adag maahe she can understand English eray aad ku turto English stress kuma qabto absolutely kuma qabto ayaga qaar ka markaa la hadashid excuse me hadda maamooyinku way isticmaalaan English way yaqaanaan luqadda way ku hadlaan xogaa comfortable kuma dareemayaan inay ku hadlaan waxay rabaan ku qabsadaan laakiin the end waa luqad ay garanayaan so qof kastoo dareemaya qofka English ku hadlo inuu balaa iska dhigayo qofkaas ma wax balaa iska dhigayo ee qofka ba insecure dareemaya oo luqadda Englishka u haysta inay ku hadlaan dadka balaayada ah waa just language waana baran kartaa meel kasta but markii ay badatay doo commentiga markuu bato oo dadkina every video ay soo gelisid 5-8 comment oo ku jirto saas ka hadlaayo adiga markaas waxaa isleedahay okay maybe
run waayo niyo adin like adigiyaa wax ku soo galaya ma fahantay because at the end of the day ani markaan qof Soomaali ahay platformkayga waa Soomaali platformkan si walba ha u ekaado waa platform Soomaali luqadu rab ha ku baxo waa platform Soomaali in the end aniga muhiimadeedu weyn waa Soomaali so aniga kowda hadda markaan aan bilaabeynay waxaan rabnay in af Ingiriis ku sameeyno because of waxaan isdhehaynay niyahow maadaama ay jiraan platformyaal badan oo af Soomaali ku baxo oo Soomaaliga already la cover gareeyay Ingiriis ma cover gareena haddana waa fiirin waxaan dhahnaa okay haddaan af Soomaali af Ingiriisan ku hadlaynaa purely af Ingiriisan ku wada waxaan dhan ku sameynaynaa haddaan dhahno maybe then Soomaaligii waxyaalihii Soomaalida caaqibadihii Soomaaliga ilaan anakoo Soomaaliyan at the end of the day Soomaaliyan tuusin rabnaa moogta Soomaaliyan rabnaa inaan and the whole thing inaan wixii dhan aan flip gareyno oo narrative-ki aan bedelnaa rabnaa marka waxaan dhahnay no how about marka tii Ingiriis ku macaan haddaan Ingiriis ka dhigno tii Soomaali ku macaan Soomaali ka dhigno which saa sheegtay generation dhanaa jiro oo af Ingiriis ku hadlo oo loo baahan yahay inay ay soo galaan meeshii at the same time dadkii Soomaaligana ay kula laakiin dadkii waxay fahmaynin maalinta TikTok live aan ku jirna the same thing war dadkan ma Soomaaliya la hadlaa mise gaale la waana kii aan markuu waxaan leenahay waaba ku hadlayna af Soomaaliga abtiyo abdu waa inaad taqaanaa aduu yaa la hadlaysaa who's your audience first you cannot say Somali audience you have to focus adiga meel ana markuu warsi waalidkan focus gareynay hadda waxaan rabnaa ku soo laaban hadda waxaan rabnaa sida aad shaygiisoo laga cabanay hadda reena u sameeyna mar dhow oo isku dhaqaseena mar dhow waxa dhaca qofka comment soo qoriyay u taala so generation ka cidda alla hadlaysa waa inay caddahay okay adin waxa la hadlaysaa dhalinyaro joogta Soomaaliya meesha u dambaysa oo hal eray English aan fahmaynin mister nolosha halkan iyo waxa halkan ka socda iyo waa in dad kula socon karo in la hadasho moogtahay dad maankoodu dad isgaaraya ma ahayna dadka xumeynaysid laakiin qof xoogaa maxaa ka hadli kartaa mental health cidda fahmaysa oo saameynaya dadka meelahan jooga wey ama dadka Nairobi jooga ama Europe jooga oo wixii fahmi kara mental health qofka jooga Soomaaliya qofka waalna dariska buu garaacaa cirsaas wax saameeya mental health waaliba u yaqaan qofka waalna gaal buu u yaqaan ulbay lagu cirsada maalin wala laaya dadka waalan meel bay ku xiran silsilad bay leeyihiin so mental health iyo caqabadaha ay ku yimaadaan solution muxuu yahay traumada maxay tahay wax u fahmayo oo ku wareeraysa marka Soomaali ku soo hadal ku soo qoraya ma garad laakiin hadii focus ku yahay okay maalin wax la yiraahdo who's your audience in ajnabi cadaan ay ugu dhahay waa ku abaar baan ku rabtay wuxuu yiraahdaa are you okay you don't know audience-gaaga target-ka ma taqaanid waa inaad sheegtaa uu dhaxay maalinta wixii dib saqal ma soo qaaday who's my target baa iraahdaa marka waa inuu ku qoriyo marka target-kii dadka halka jooga way okay target-kaaga haduu yahay Soomaalida Mareykanka joogta what you doing is good how often u shift gareysa target-kaada how often u shift gareysa mararka qaar every video waa sameynaa every video u dhameeyay imsa qof u gaari halkay kala joogan age-kooda mararka qaar waa fiirinaa our main target was annaka inaan because when we started it was markii oo Soomaalida lagu kacsana you know and then we noticed there's not a lot of people oo noo hadlaya oo maartay la hadli karo Soomaalida hatta business-niyooda ma aqaanaan wax la dhaho media trained ma garanayaan so the first person or supervisor or anybody or meesha ka shaqeynaya that first person is going to speak and a lot of times dadka si loola hadlo media ma aqaanaan waxay iska sheegaan waxay rabaan ayagana iska sheegaan not knowing the consequences oo hadhow wax ereyga ay iga dhahan kasoo bixi doonto marka waxaan rabnay inaan annaka dhahno annaka waan u hadlaynaa hadduu qof rabo inuu Soomaali camal la hadlo oo maarto qof rabo inuu wixii noqdo there are a lot of places oo Soomaaliga lala hadli karo but then there will be at least like this one place where wax walba runta la sheegayo regardless of runta sidii doonta u kharaarto sidii doonta u macaanaato ma fahantay so that was our target kana soo especially Soomaalidana at that time hostan wada fiirnayne ma fahantay sababtoo ha dabkana kuna kor saarnaa meel walba wuxuu ahaadaba so that was our like motives behind waxaas so marka right now annaka we went from there to realizing that can and waxayneenabo there are many issues that needs to be talked about amala so marka we at the right now tartiib aan u tataabanayna boogaha because hal mar waxaan kuma boodi karno
tartiib waa inaad dadka inaad condition garaysid waaye sifay hadalkaada u maqlaan haddii aad laakiin waxay ayaga aaminsanayeen their whole life haddaa hal mar kasoo horjeesatid it's as though inaad maarata ka dhaadhicirtid cirku waa red kuma aaminayaan ma fahantay ama kuma aqbalayaanba idinka maxaa comfortable ku tihiin adi labadiina hadda bahalka wada somaa comfortable maxaa ku tihiin idinku luqadda maksiga somaa you cannot act somaa you cannot do ina Soomaali ku hadasho somaa it's really hard Soomaali bas ah way iska soo أنا dhexgalaysaa أقول هذا الكرا Somali straight لكن ويسود حقلي قصب واي ويسود حقلي may waxa laga yaabaa toobigada ka hadlaysaa xal research ku sameysay research ku sameysay Soomaali ma ahayn research English صح. so way kugu adkaanaysaa in eray English iska yeelaysa haday kugu adkaanayso way haday kugu adkaanayso anigoo dad fab guys loogu wacaa mararka qaar iga soo baxsata eray English Yeah. oo asarka anigoo ku hayaysaas oo lagu dhahday kiday acting say wallahi lagu dhaw Yeah. so idinka waxa comfortable ku tiimada indi sax ah okay hadda actigrees waxaadan ahayn dan qiimihii waa lumay awdiinsi hadda qancinaysid to waxyaaba ugu xun media hawada ka saara way adiga waxa ku enjoy gareynaysa samee dadkan imaanaya walaalayaal oo igula enjoy gareeya ama iska taga way raali ahaada صح ay kana acti waxaana sameyn karin xumaaniga Soomaali maaha biyo hata ku hadlo way igu yar adag tahay Anaa eray English aan ku soo daraya walaalayaal oo igu qaata ama waa maasantihiin waxa aadaan mun media waa sax أنا waxaa aaminsanahay message-ka ugu fiican markaa la dhigareeyo ma aragtay ama dadka wax ku dari kara ama like wax aan sheego marka unfiltered ah moment aan isku qufula ma aragtay anidan yeah yeah and feel waxaan ahaani like critique-gayga saxda xataa ma gaari karin waa isku So day in unfiltered badan is good. inaan Soomaali bis ku hadlo Yeah. but then waxaas arkaa halfway through anoo Ingiriis ku hadlayo halfway through oo kale tade midda kaleetana waxaa mataqaanaa xataa haddii aad rabtid messageki inaad gudbisid aad isku dayaysid messagekaas inaad ku gudbisid exactly Soomaaliyo hadalkaas oo dhan meesha ka bilaato ilaa meesha ku dhammaato Sax. af Soomaaliya ku gudbina haddaad dhahdid sax waxaa waxay kugu qaadanaysaa in adigii aad ereyaal raadisid ay Sax. kugu qaadanaysaa kow labana marka hadda aad ingiriiskii ana hadda suur ninkan odaga sheegay waxaa comfortable ku tahay moogta ana comfortable waxaan ku ahay waa wax ereygii markaas maskaxdayda kusoo dhaco brainkayga soo u shaqeeya waaye Sax. so maskaxdayda hadda hadday kusoo dhacdo erey ingiriisa qaadanaya laakiin most of the timena waxaan isku dayaa in messageka uu ka muhiimsanaado hadalkayga because muhiimaddu waa messageka soomaana ani hadda markaan hadal sheegayo aan message gudbinayo messagekaas hadduu ku baxayo af Soomaali uu ku macaan yahay af Soomaali aan ku bixinayo hadduu af Ingiriis ku macaan yahay af Ingiriis aan ku bixinayo so ani messagekaas aan fiirinayo messagekan muxuu ku bixi karaa laakiin audience-ka marka aniga dadka cause I wanna at the same time anigoo qancisnayga maaha but anigoo oo sympathize gareynayo mise empathy ahaan oo dhahayo niyahow dadkan ku daawanayo maxaad adiga Feedback-gooda waa aragtay feedback-gooda maxaad ku qaadan kartaa ani waxaan isleeyahay luuqadda because luuqaddan ani the most waxa ugu fiicana hadda podcastigan aan sameeyaa waxay tahay dhalinyarada meeshaan ku koray in ay dareemi karaan comfortable ee dhihi karaan niyo meel meeshaas baan aadaya meeshaasaan kasoo hadlaya mise podcastigaan aan dhegeysanaya af Soomaaliya aan ku baranaya because af Soomaaliga markaa ka bilowdid meel dheer markaa ka bilowdid dee midaa fahmi kartid markuu yahay way kala tahay ma ogtahay so ani dhalinyarada badan hadda feedback aan ka hayo ciyaalsay walaaga waxaa waaye niyahow podcastigiina caadi u fahanaa kuwa Soomaalidana ani marka waxaan leeyahay kuwana la rabin inay dhahaan af Soomaaligan kuwan se u fahmeynin so marka aniga feedback kaasaan rabaa inaan qaato oo aan create gareeyo something oo labada audience kala labada audience ku wareertay kala ha hadda hadda tiraahdo okay I'm going to take kuwa Soomaaliga ku hadla waxay dhaheen you're going to lose kuwa halkan jooga adu marka hore marka inaad tiraahdo marka hore way okay labada audience ka ixtiraama run baan ku sheegayaa audience halkan jooga ixtiraam baa ku dheeraada mid ixtiraamis kuwa halkan jooga ka dhaxayso aqoon inay ku dhex jirto Yeah. ereyada Ingiriiska inay way rabaan inay bartaan barefadii aadaan iskuulay aadaan they try inay bartaan inay ku hadlaan bay rabaan maxaa la dhahay so aqoon ka dhaxayso luqadda in ereyada aan ku hadlana barta ku dhaaniyo barta khasab weyn barta su-aasha ugu dambeysa marka waxay tahay waana nooce baa siin lahayd qof Soomaaliya mise nin dhalinyara mise cunug yar oo hadda rabo inuu podcast mise maxaa la dhihi jiray uu bilaabo inuu sameeyo
content creating maxaa dhihi lahayd waanida ugu fiican aad siin lahayd maxay ahaan lahayd horta midda ugu horeysa waxaa weeye way fiicnaan lahayd broadcasteradu hadduusan platform ciddu haddaysan platform haddaad ahayn inaad meel focus garaysid si xoogaa focuska kuugu hagaago oo wax kastoo aad samaynaysa ay kuugu hagaagaan broadcasterka laba ah dadka qaari arrin ay expert ku yihiin bay ka hadlayaan dadka qaarna waa iska interviewers annagoo kale tahay tusaale ahaan expertiga waan keenaa kadib waa wareysanaa annagoo arrin research ku samayn karna ka hadli karna kama hadalno okay haddii ay suurtagal tahay horta topic dooro arrintaas businesska topic ah xooga saarayaa si adiga horta focuska kuugu hagaago xoogaa maskaxda kuugu toosto horta focus yeelo focuska marka laba noqonayo focus arrinta aad ka hadlaysay aad dooro wax aad ka hadlaysidna focus garee okay caanimo degdegana ha raadinin result waxay leedahay dhulka aad kusoo dhacaysa hal mar baash hal mar lama helo tartiib bay u baahan tahay haddaa hal mar rabtid inaad heshid ciqaab waxaa laga yaabaa inaad la kulanta inaad hal mar hawada ka baxdid waa inay jiraan dad kula soo bilaabay meesha waxa ugu muhiimsan waxaa weeye magac ha u dhimanin waxaa u dhimataa maxaa la yidhaahdaa value iyo legacy u dhimo qiimo kaga tag dadka anigu waxaan ugu macnaha badan waxaa weeye inaad value ilaalisid legacyna ilaalisid caan baa tahay qalalan oo aan cidna is ixtiraam ku hayn wax macnaa ma ku sameynayso laakiin caanimada soomaalida wax kaliya laga faa'iido waxaa weeye in si fiican lagu salaamo lagu yiraahdo wareer yarka miyaa taa awlbis cidna lacag ku siinin moogta mararka qaar qof qodada kaasi bixiyaa laga yaabaa magac wanaagsan oo positive ah oo wax wanaagsan ka hadlaya oo markii meel lagu arko la salaami karo laakiin in la dhihi karo cud bilaah shar taasna iska ilaalisid hal arrinna focus garaysid waqtigaagana tartiib maantaan samaystay 100,000 mar inay daawato ama maantaan samaystay rag 5 sano kamid soodan tartan la galayaa way kugu adkaanaysaa if you hadda fiilis balaasmiya tartan kula jirtid gudaha YouTube-kooda fiir inta video ku jirta 3,000 4,000 5,000 oo video ku jirta soo qof 5,000 oo video create gareeyay barta adigu hal video create gareeyna isku mid noqotaan it's not going to be possible tartiib wax ugu mis waxa consistent waxa sameynaysa waa inay wanaagsan yihiin anigu in mar walba inay wanaagsan yihiin oo akhlaaqiyadku u fiican yihiin oo dhaqanka u fiican yihiin oo edabta u fiican yihiin baa kugu talinayaa inaad joogtaysidna waxa ugu muhiimsan wixii wanaagsanaa inaad joogtaysid disappointed baa kugu dhacaya darbaaxa kugu dhacaysa daawashada yaraanaysa niga jabiyayaal badan baa arkaysaa qaar badan baa ku dhahay waxaan iska dhaaf laakiin waxaa ku dhiilaa waxa hadda if you truly love waxa sameynaysid qofna ha dhegeysanin just do it sida saxdaana u samee saaxiibo waxaan kaaga horeeyay wanaagsan la tasho ani fariimaha u jeclaa waxa weeye qofka uu yiraahdo inaan waxaan bilaabaa rabaayo tala iga sii fariimaha hore kaga jawaabo weeye salaamu calaykum qalalan iyo maxaa la yiraahdaa laptop iga jabay waxa hayso dirin aniga iyo cabdi qofka la hadlaysid hadaa u dirtid arrintan rabo inaan bilaabo Soomaali badan oo broadcasters ah cid kale waxaan ku jirtaba talay ka siinayaan talada u fiican oo ku siinayaan waxaan lagu siinayaan kuma shaqeynayso ani talada ay shaqeyso kuma shaqeynayso adiga waxa loo baahan yahay adiga inaad samaysto wadadaada gaarka soo waxa weeye wax wanaagsan samee si wanaagsanna u samee waxa aad sameynaysid wax adiga kula qurux badan oo adiga kula ah waxani waa wax xiiso badan adiga kula ah inaad samaysid dhalinyaro badana aqaano oo rabaan inay social media soo galaan mise ay podcast sameeyaan waxyaalaha ugu weyn ay ugu dhahaan waxaa waaye commentiga oo xun sida loo qaato way ugu adagtahay qofaa macnaha wuxuu kuu soo qoraa war xayawaankan maxaana soo horfadhiisiyey waxaan xasuustaa maalin yaraan saaxiibana intuu screenshot ka soo qaado buu ii soo diray kubaa wuxuu dhahay podcastiga qalbaha podcastiga qaali in laga dhiga waaye qof walbaa iska soo qaadana iska hadlaya camal marka ereyadaas oo kaleeto commentiyaasha waa waxyaalaha caqibadaha ugu weyn oo dhalinyaro badan oo message fiican wado oo maxaa la dhihi jiray oo podcast maanta hadday soo fadhiistaan dadku wax u faa'iideyn lahaa waxyaalaha ugu badana ee iska caqibadaha ee ka hadlaan waa niyo aniga maxaa ligu caan anigii intaan waqtigii soo gelin meel soo fadhiista haddana cayl igugu sii daro maxaa marka anigana tan ugu weynaan sheegaa waxay tahay the message has to be bigger than waxaan commentigan iyo messageka aad diraysid inuu ka weynaan karo waaye commentigan iyo qof saan ku dhahay iyo qof kaas ku dhahay iyo qof training noo soo siiye male intaanan meesha fadhido sida commentiga dadaa jiro markay social media soo galayaan
therapy iyo training soo aado oo lala soo hadlo la dhoosaan u xilgaray saan u sameey oo PR training la soo siiyo anaka cid training la soo siiyo ma arona ba mahad bad afarteen I don't think any oo training aan soo qaadano mise therapy aan soo qaadano iyo commenting aan sida loo xaliyo hal su'aalan ku sii daraa waxay tahay podcastiga markaa sameynaysid dad badan baa waxay ku dhahayaan niyo qofkan ha soo dhaxgelin markaa interviewga la sameynaysid niyo qofkan ha soo dhaxgelin hadlin do you enjoy podcastiga kan interviewga oo qofka saas mise saan oo kale discussionka loo wada hadlaayo or what's the difference haddaa noo macnayn kartid batan oo la dhahay interviewga soo dhaxgelin adii aamus qofkan uuna hadlo nin waxaa mudana commentiyada soo akhriso wallahi aad baa la igu soo qoraa you know commentiyada ugu badan ee arkay ka mid yihiin waliba kuwa ugu badan sax dhibka jira waxaa weeye qofka gastiga kula jooga adiga waxaa rabtid inaad ka ogaatid iyo qofka kale wuxuu rabo inuu ka ogaado way kala duwan yihiin adigu qofka mati isku qalbi manin walaalow ninka ana casuumay ana u yeeray ana su'aalihii qortay ana research sameeyay waxaan igu ixtiraam waa run arrin baa rabta qof wuxuu dhahayaa tusaale ahaan hadda ka hor baan bas soo raacnay sheeko dheer buu galayaa markaan baska soo raacnay baska waxaan kaga deganaa meel stop ah marka stopta kaga degan marka stopyada waxaad uma rabtid meel kale la socotaa ruuxa leedahay nin u kaada stopto marka meesha nabad tagteen ka waran ba halka iga bilow waa leedahay qof wuxuu leeyahay maxaa u dhex galaysaa qofka stopto waa inuu ogaado wixii alaabta uu ka sii qaatay marka isku needis ma jiro qofka hal baahi ma qabtaan qofka daawadaha ahi waa ka qalbi duwan yahay qofkii wuxuu rabaa inuu ku enjoy gareeyo haddaad ka dhex gelin maqaa wax ku dhahayo waa boring waraysi waxaan waa basho ku caadsi buu ku leeyahay suuqyada way ka yeerayeen either way ka yeeraysaa adoo qof hor fariiso on podcasting hal arrin dadka waa in la fahansiiyo podcastigu isna interview ma aha qofka intuu ku yimaado saas oo anaga dadka waqti fiican baa siinaa laakiin qofka intuu ku yimaado inaa maxaa la yiraahdaa tiraahdo haysaas ka aamusid haysaas it's going to be boring somehow waxa podcast interesting u yeelo waxa way wada sheekaysiga iska dhexgelida audience qaar marka hadalku soo dhahay meesha uu sidiisan anay haystaan gastiga waxay dhahayaa hadalka uu sidiisan meesha dadka qaar xataa we interview dad badan oo ADHD haysta sadada ka dhexgelin waa adiga laftiga wareeriya moogta intuu mikrofoonka qaato halka saac inuu hadal laga yaabo waa in la hadalka ka dhex gashaa marka oo isku dadeena maamushid so to ugu weyn waxa weeye ma xakameyn kartid taas mid kalena way jirtaa inaad adigu bixin laftigaagu oo adigu meesha aad waraysiga joogtid hurdo fiicanna soo qaadatid nasasho fiicanna qaadatid adoo maskaxdaadu joogtid inaad qofka dhegeysatid 200 arrin kugu furan yihiin oo ballan kale to one leh hadaad 12 teed waraysi kala bilowday waxa leeyahay waa ka dhexgalaysaa mar laakiin inaad qof kula fadhiyo dhegeysanaysid marka qaar dhacaysid qofkiyo meel muhiim ah ku dhufan raba ina ka soo dhex gashid laakiin hadaa podcast sameynaysa kama dhexgalaysid hadaa interview sameynaysa waa ka dhexgalaysaa so interview list su'aalaha waa wadataa magar next question ba adigu ku diyaarsanba qofkan ba follow up ma sameynaysid laakiin hadaa qofka dhegeysatid okay waxa helaysaa su'aalihii ku qornaa su'aalo ka muhiimsan 10 jeer baa helaysaa so hadaa أنا مرة قارئ عيد عبد الحليم مرة هردود أوجر تامية ويش ساسا أوفيريا لي لبا أرني واقو حليا مرة قفك أودينسي أي أنا سكوح كمر هذين أنا قصتي قلفت بس لبا أرني بكر هذين أنا تلا هذا حوي ضد كانوا وين يكوي احترام أنا وح شقة قوتي قصتي مرنا ويا عيان مرنا وح كلية محاول حجلسها سو قف كان يأذو سكوبا هنا متيذن سكوحنا مر هذين إنسان سكوحنا مر ربطان سؤالها كو قرن بعدك الصحة try your best and try also إن قفك دقيقتي سيادنا وين حقل لفتقاو سواء ملفي عن مرسيني سيادنا هذا لكن أدو أنت يرى مشقوش يرى بحديد عبارك دو سؤال لابتي أصلا ملفي عن مرنية متكلا كتورتي أو دي أنسى مسكراي من الوصية ويقولي سيدي وحا أمسنا الريليشنشيب وكالينو ياه بالوايس لا سعنيسين بالكواكا حناخي بالكون كلا طبعا كون كلا تاكسي جعلاني هذا لكن إذا هدد ودضوض لك وصعني مربك لي في كاردان يمدو حوا وايق لإنا الدور عدد عبديز محاول بلو هذا أرنتاس هالمر أن كسول لابنايا أو markaad podcastiga sameynaysid ma taqaanaa I feel like dadka badanaa adee hadda markaad aad qof isuur fadhidiin mas-uuliyadaada ugu weyn qofka podcastigan anaka hadda maanta mahad baa martino soomano mas-uuliyaddeena ugu weyn waa inaan represent garayna audience-ka su-aashii ay isdhihi lahaayeen mahad inaan weydiiyaan rabaa inaan ani u weydiiyo waayo
audience-ka meesha isdhihi lahaa ninkan muxuu ka wadaa hadalkaas ina ani dhaha waay maxaa ka wadaa ma fahantay yes. so ani inta waxaan u fadhiyaa audience-ki ilan meesha audience-kina ma hor fadhiyaan moogta wayna daawanayaan ani marka muhiimadeedu ugu weyn waxaa waaye markuu podcastigan videogan qofkaas markuu dhammaysto inuu dhaho wallahi su-aal walba aan rabay wuu ii weydiiyey audience haddana kala duwan laakiin de audience waa nooc kasta leh audience hal baahi ma qabaan sax audience hadda qaar waxay rabaan in reerkayga inay ogaadaan soo may weydiinaysaa audience qofba baahi buu leeyahay qof wuxuu rabaa yarka gastiga reerkiisa inuu ogaado rabaa iyo qabiilkiisa qof wuxuu rabaa inuu ogaado horta muxuu sameeyaa ku friigaya then taa topic-ay ku xiran tahay soo maaha taabigay ku xiran tahay laakiin audience haddana waxaan ku leeyahay laftigoodii waa dhowr boqol oo qof oo meelo kala duwan kala joogaaya isku needs hal baahi ma wada laha su-aalo waaweyn oo dad ka dhex guuxayaa jirta follow upkiisa hebel ma fiicin haddaa maqashid qof baa wuxuu taabanayaa meel muhiim ah haddaadan follow up ku samaynin xoogaa waxay noqonaysaa in lagu yidhaahdo maad raacin qofka laakiin hadda ana wareysyada qaar aan qaaday waxaa lagu leeyahay oh my goodness wiilkan muxuu yahay wareysigu qaaday cajiib the second interview kii cajiib shalay kusoo qoray kule cunto cunugan baas si wax loo weydiimo ma yaqaano haddaa marka iyaga qancisa waa ku wareeraysa adiga way su-aasha su-aal kaleeto waqtiga wuu naga dhamaaday is there anything else that you guys want to add to ani the final thing aan ku aad gareeni karo oo Soomaali Maxamed social media therapy weyn loo baahan yahay shaqada haysid in aad khayr Allah ku siiyo ma therapy maxaa ka wadaa therapy waxaa ka wadaa algorithm-ka soo u shaqeeyo ummadda waalana uu ka sii waalaa kuwa fiicanna waa inaad raadisid ma fahmino soo ummadii oo negative-kii oo helaya haddii videoga ka soo dhex baxo waxaa aaminsanahay 10 xataa Soomaali haddaa meesha ka leexisid ma aragtay oo dhabaa fiican ku leexisid dad kaleete ayakan u sii sheer gareynayaan wixii ummad kale gaari dad badanaa hal arrin ku xakamee Cabdiis miduu sheegayo hamna interested ana hada telefiyaad ku dhiibo waxaad dhahaysaa telefonka qof ajnabi ah iskale sababtoo ah waxaan jeclahay bas horta ka helaysaa waxaan jeclahay marka waa maxay waxaan jeclahay waxa weeye wax kasto wax ka faa'iidayo wax ani ila xiriira ka helaysaa so wax kasto kadis iiga hor yimaada marka uu rasmi amna interested baa dhaha marka ku soo laalaabanayo TikTok oo kale soo u shaqeeyo caadi ma ah war xataa Facebook iyo YouTube hadartan waxa bishan daawatid 3 bilood socota iyaga daawanaysa absolutely صح so waxa search garisid wax kasta ku keenaya marka waxa indii waxa weeye algorithm-ka waxa rabtid inaad daawato waa inaad doorato haddaad daaran ayaga ku dooraya maalin kasta waxa ku imaanaya waa raacaysa kadibna waxa laga yaabaa ma hadda addicted ku noqotay bis waayne marna hadda addicted ku noqotay bis waaye addicted saaxiib waxa dileeyay mid saaxiibna wuxuu ku leeyahay waa wacaysa moogta waxa wacaysa 11 meelahaas wuxuu ku leeyahay TikTok online ka ahayd telefonka caadiga online kama saddex saac oo ugu dambeysay daawanayay saddex saac oo ugu dambeysay habeenkii aroortii inta soo bariyay iyo TikTok online ka yahay telefonka caadiga kama qabanayo TikTok fariin iga soo dir bugule ama muuqaal isoo share garay waxa ay soo wicin ma sha Allah and thank you brother mahad Abdiis waxa dhila waxa weeye waxyaabaha hadda idinkuna waa aragtaan waxa laga muuqaalka inay daawato number fiican inuu daawado dadka muuqaalka daawanayaahi subscribe-ta hadday yaqaanaan dhisan aqoon baa dhib ah hadday yaqaanaan meesha laga saaro waa meel yaroo kalar gaara loo gees ku taallaa haa guduud miya kalarka waa maqaane subscribe-na saara gambaleelkana saara dhalinyaradan waa support garayn kartaan inta daawatid muuqaalka ka faa'iidaysatid oo shaah ku cabtid inaad isaga tagtid adoon subscribe saarin wax macnaa ma laha marka Abdiisna subscribe hala saaro thank you so much brother mahad maanta waxa kugu wacan waxay ahayd inaan flowskaada ku siino ma fahantay iyo one inspiration guy tahay oo maxaa la dhahaa masha Allah shaqada community-gu u haysid saa sheegtay Moon Media hadda way ka weyn tahay waa institution but it was all your idea maxaa la dhihi jiray so masha Allah ilaah ku barakeeyo aan meeshaas ka sii wad baraada way anaka role model aan noo tahay anigana waa kala kicsan saaxiib ma so akhyaaray soo mahad sheegay make sure subscribe make sure you share the video like the video and inshallah ta'ala we'll see you guys next Tuesday Eid Mubarak inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh